توسلنا إليك واجهك ربي والقرآن العظيم والأسماء اللهم صل وسلم عليه بمحمد وعليه وصحبه وبجاه محمد خير الخلق سيد الرسل خاتم الأنبياء وبأولي العزم الكرام ورسله وجميع الأملاك والأنبياء وبأزواجه وبأهل بيته وبأولاده وأهل العبائر اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد. ولا ليال وحان جعلنا هل كان إنا نكسو قد بنه عقيدة السلف الصالح. عقيدة السلف الصالح أي إلهي سبحانه وتعالى أقدين دقن جرين. عقيدة سلف الصالح وحا أن نكسو أروريني كتاب كان مقعيس اللي يراهو الهدي الواضح في الذب عن معتقد السلف الصالح. كتاب كاس وحا أن نكسو أروريني سلف الصالح وسدح لي قرني أها القرون المفضلة سدح لي قرني oo ummaddan laga fadilay nabigeenuna uu u qiray sallallahu wasallam alayhi inay ahaayeen dad ahlul khayr ah. saddexda qarni aqeedadii ay aaminsanaayeen oo saafi ah ayaanu kitaabkan ku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala. salafu saalix marka la leeyahay waa qarnigii boqolkii sano ee xilligii nabigeena alayhi salaatu wasalaam iyo boqolkii labaad ee ku xigay iyo boqolkii saddexaad. saddexdaas qarni ayaa la isku yiraahaa salafu saalix. haddaba saddexdaas qarni aqeedadii ay aaminsanaayeen oo xagga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka aaminsanaayeen ayaanu kitaabkan ku soo gudbin doonaa alhadyu alwaadix fi dabbi can muctaqadi salafi saalix. haddaba walaalayaal waxaan wax shakiyihi uusan ku jirin aqeedada islaamku in ay soo martay heerar kala duwan. heerarkaas kala duwan inay mari doontana waxa inoo cadeeyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ayaa waxa nabigeena uu ku yidhi sallallahu wasallam calayh layaatiyanna calaa ummatii maa ataa calaa bani israa'iil tafaraqa banuu israa'iila calaa 72 millah وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا يا رسول الله وما الملة التي تتغلب؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. حديث كاس إمام الترمذي أيا وريي أسانيد فربضا أيون كسو أروري ووحى حديث كان نبي كسو قادي كان وريي صلى الله وسلم عليه جماعة فربضا الصحابة كمدا. وحانا صحابة النبي حديث كما غشي كمدا أنس بن مالك، أبي هريرة، أبو الدرداء، جابر بن عبد الله، أبي سعيد الخدر، أبي بن كعب، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبي أمامة، واثلة بن الأسقع يرك فربضا صحابة النبي كمدا صلى الله وسلم عليه. يا حديث كان النبي كما غلي هذا حديث كاس ولا ليال وحا أوليه هي ومديده وحا أو إيمانها
wixii reer banu israa'iil u yimid oo khilaafa oo kale reer banu israa'iil waxa ay ku kala tageen 72 firqo ummaddayduna waxay u kala tegi doontaa 73 firqo waxayna dheeraad kala noqon doontaa reer banu israa'iil hal firqo 73daas firqo kulligood waa ahlu naar ilaa hal firqo oo keliya maahane markii ay su'aaleen saxaabadu nabiga sallallahu wasallam calayhi oo ay yidhaaheen rasuulka ilaahayow maxay tahay firqada gaalibka ah ama diinta saxda ah ku socota caqiidadeeduna ay tahay nadiifka wuxuu nabigu ku jawaabay sallallahu wasallam calayhi maa ana calayhi wa asxaabii aniga iyo asxaabtaydu waxa aanu ku sugannahay oo xagga caqiidada iyo hadyiga ah taas ayuu yidhi nabigu sallallahu wasallam calayhi ayaa badbaadaysa ahluljannana ah wixii kale oo ka soo haray waa ahlu naar haddaba walaalayaal si loo ogaado xaqaa'iqa millada ama firqada nabigu uu ku sheegay sallallahu wasallam calayhi inay badbaadayso ayaa waxay tahay nebi moxamed sallallahu wasallam calayhi wixii uu haystay saxaabadiisuna ay haysteen salafu saalixna ay aaminsanaayeen waxaana shaki ku jirin caqiidadu heerar kala duwan in ay soo martay muslimiintu xilligii nabigeenna sallallahu wasallam calayhi uu noolaa waxa ay ku socdeen hal waddo oo keli ah wax khilaafana uma dhexaynin xagga usuusha iyo xagga furuucda midnaba khilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa markii nabigeennu geeriyooday sallallahu wasallam calayhi maxaa yeelay qoom saxaabada ka mida ayaa waxay yidhaaheen ma uusan geeriyoon nabigu sallallahu wasallam calayhi mana dhiman laakiin samada ayaa loo kor yeelay sida nebi ciiseba samada loogu kor yeelay khilaafkani waxaa baabi'iyey sayidunaa abubakar as-sidiiq markii uu aqriyey aayadda qur'aanka ah ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasallam calayhi dadka kalena way dhimanahayaan waxaa kaloo uu aqriyey wamaa muxammedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebi moxamed sala allahu wasallam calayhi rasuul maahane wax kale ma aha isagana waxaa hortiisa geeriyootay rusul kale oo isaga ka horraysay hadduu geeriyoodo ama la dilo ma gaalnimadiinnii ayaa dib ugu laabanaysaan aayaddaas markuu aqriyey sayidunaa abubakar khilaafkaasi wuu baaba'ay muslimiintii dhammaantoodna waxay isla qireen nabigu inuu geeriyooday sala allahu wasallam calayhi khilaafkii labaad ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa in ay isku khilaafeen meesha nabiga lagu aasaayo sala allahu wasallam calayhi saxaabada qaar ka mida ayaa waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa magaalada maka maadaama magaalada uu ku dhashay markii horena laga soo saaray magaaladaas qiblada uu u dukanayana ay ahayd dhinaca maka ubadkiisuna meesha uu ku dhalay uuna ku guursadana ay ahayd magaalada maka midda kale waxay yidhaaheen qoladaasi nabiga awowihii sala allahu wasallam calayhi oo ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ah ayaa maka ku aasan qolo saxaabada ka mida ayaa fikri kaa ka duwan soo jeediyeen waxayna yidhaaheen magaalada madiine ayaa lagu aasi maxaa yeelay waa magaaladii uu u soo haajiray waa magaaladii masjidka uu ka dhisay sala allahu wasallam calayhi qolo kalena waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa masjidka weyn ee la yidhaaho almasjid alaqsa waa masjidkan hadda yahuuddu gacanta ay ku hayso masjidkaas ayaannu ku aasaynaa ayay yidhaaheen maxaa yeelay halkaa waxaa ku xabaalan nabiga awowayaashiisii mid ka mida waa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam haddaba khilaafkani wuxuu baaba'ay markii sayidunaa abubakar uu saxaabada u sheegay xadiis arrinkaa ka hadlahaya inuu jiro xadiiskaas oo dhahaya ina alambiyaa'a yudfanuuna xaysu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa meesha naftu uga baxday sidaas ayaa marka khilaafkaasi u baaba'ay waxayna ku dhaqmeen xadiiskaas abubakar uu nabiga uga sheegay sala allahu wasallam calayhi oo tusaalaynahaya ambiyada in lagu aasahayo meesha naftu uga baxday sidaas ayaana nabiga lagu aasay magaalada madiina sala allahu wasallam calayhi kabacdi waxay muslimiintu isku khilaafeen ummadda ninkii hoggaamin lahaa maadaama nabigeennu uu geeriyooday sala allahu wasallam calayhi ansaartii
waxay yidhaaheen waxaa ummadda hogaaminahaya Sacd ibnu Cubaada al-Khasraji heer Qurayshna waxay yidhaaheen imaamada iyo madaxtinimada waxaa qaadahaya heer Quraysh markaas ka bacdi khilaafkaasi wuu baaba'ay waxayna muslimiintii isku waafaqeen inuu hogaamiyo as-Sayyid Abu Bakr as-Siddiq muslimiintii marka waxay sidaa ku socdeen zaman dheer iyagoo iswaafaqsan oo wax khilaafahuna dhexdiisu aysan aalin waxay la dagaalamayeen dadka murtadiinta ah oo diinta dib uga laabtay iyo gaalada ayay dagaal ku qaadahayeen ka bacdi marka waxaa dhacay dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay madaxweynihii saddexaad as-Sayyid Uthman ibn Affan waxay isku khilaafeen ka bacdi saxaabadu ruuxii ka dambeeyey Sayyid Uthman dilkiisa ee qorsheeyey fidno isdaba joog ah ayaa halkaa ka bilaabatay ilaa uu dhacay dagaalkii ay isaga hor yimaadeen Sayyiduna Ali ibn Abi Talib iyo Muawiyah ibn Abi Sufyan laakiin saxaabada dagaalka dhex maray wuxuu ahaa dagaal aan la oran karin waxay la mid yihiin dagaalada jaahiliyada ee xilligan wadamadeena ka dhacaya balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ijtihaad ku socda mid walbana wuxuu u dagaalamayay diinta haddaad hogaamin lahayd way kor noqon lahayd marka dagaalka saxaabada dhex dhacay in laga gaabsado waxna aan laga sheegin sidaas ayaa salafu saalix aqeedadooda ay ku tageen iyadoo marka saxaabadu ay sidaa arrinkoodu yahay waxa soo baxay xilligii mubtadicada waxa qoorta sare u qaaday qolo mubtadica ah oo ku sheegtay saxaabada raggoodii waaweynaa in ay gaalo yihiin mubtadicadaas oo ay ugu horreeyeen qoladii la oran jiray khawaarijtaas oo ahaa dad aad u cibaado badan masaajidana camira laakiin ku gaalnimo xugminaya saxaabada raggoodii waaweynaa ayaa soo baxay khawaarijtaas waxaa aad ula dagaalamay dabar gooyana Sayyiduna Ali ibn Abi Talib rag fara badanna ka laayay gabagabadii ugu dambaysana iyaga ayaa toogtay Sayyiduna Ali ibn Abi Talib sida taariikhda islaamku ay qortay ka bacdi haddana waxaa soo baxay niman kale ee bidca ah ee la oran jiray qadariya waxaana bidcadaas aasaasay nin la oran jiray Macbad al-Juhani ayaa aasaasay ninkaas Macbad al-Juhani marka uu arrinkaa faafinayay muddo dheer wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa 80kii waxa kaloo soo baxay nin la oran jiray Jacd ibn Dirham nin la oran jiray ayaa soo baxay isaguna oo muslimiintii khilaaf xagga caqiidada uga abuuray ninkaas oo watay quraanka Ilaahay waa makhluuq ninkaas isagana waxaa dilay Khalid ibn Abdullah al-Qasri nin la oran jiray ayaa dilay haddaba saxaabadu waxay ku gacan sayreen kana beri noqdeen mubtadicadii qoorta soo qaaday waxaana ka mid ahaa dadkii ka beri noqday saxaabigii weynaa ee la oran jiray Abdullah ibn Umar nin saxaabiya ayaa u yimid markaas wuxuu yiri inna qawman yaqra'una al-qur'ana kharaju min qibalina qolo quraanka akhrinaysa ayaa waxay ka soo baxeen buu yiri dhinaceena wayaquluna inna al-amra unuf waxayna leeyihiin arrinku waa cusub yahay oo wax qadar Ilaahay iyo qorshe Ilaahay uu wataahay ma jiraan wax hore loo qadaray ee Ilaahay hore uu u qorsheeyay ma jiraan ayay leeyihiin oo qofka insaanka ah wixii dhibaato ah ku dhaca ama khayr ah ku dhaca hore uguma qorayn laakiin hadda buu Ilaahay bilaabi saas ayay qabeen qoladaas la oran jiray qadariyada Abdullah ibn Umar ayaa loo sheegay markaas uu ku yiri akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum buraa'u minni waxaad u sheegtaa buu yiri qolada sidaa qabta inaan anigu beri ka ahay iyaguna ay beri u yihiin haddaba asarkaas waxa wariyay Imam Muslim ayaa saxiixiisa ku wariyay mujalladka ugu horeeya ayuu Imam Muslim uu ku wariyay in Abdullah ibn Umar uu ka beri noqday qolada mubtadicada ah ee la oran jiray qadariyada haddaba marka waxa taa iyagana ku xigay qoladii la oran jiray mu'taziladu waxay soo baxeen xilligii uu noolaa imaamkii weynaa al-Hasan al-Basri waxayna muddo dheer ka akhrisan jireen casharada diiniga ah ka bacdi markii casharadii diiniga ay ka xambaareen sheekhoodii ayay khilaafeen waxaana ugu horreeyay nin sheekhiisa khilaafa Abu al-Hasan al-Basri imaam al-Hasan al-Basri khilaafa ninkii la oran jiray Wasil ibn Ata ayaa ugu horreeyay mu'tazilada ninkii aasaasay ayuu ahaa
waasil ibnu cadaa wuxuu ku dhashay magaalada madiina sanadku markuu ahaa 80 wuxuuna geeriyooday 131 ayuu geeriyooday waa shaykhu almuctazila awalu man adhara madhab alictizaal ayuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee madhabka ictizaalka ama bidcada muctazilada aasaasay ayuu ninkaasi ahaa waxaad kala xidhiiri kartaa ninka taariikhdiisa oo dhammaystiran kitaabka la yidhaaho lisaan ulmiisaan ayaad kala xidhiiri kartaa oo ibnu xajar alcasqalaani sheekhan bukhaariga qoray uu iska leeyahay juska 6 lambarka 214 ayuu uga hadlay waxaad kalood ninkaa taariikhdiisa kala socon kartaa kitaabka la yidhaha albad'u wataariikh juskiisa 5 lambarka 142 haddaba marka alxasan albasri wuu ka beri noqday wuxuuna yidhi orod oo iga tag maadaama aad muujisay muslimiinta khilaafkoodii haddaba sida mubtadicadaas iyo wixii dariiqooda raacayba muslimiintu ay ugu baraarugaan kana beri noqdaan ayaannu waxaannu jecelnahay muslimiinta inaannu u soo gudbinno caqaa'idkii salafu saalix waxaana ku soo aruurinay kitaabkan alhadyu alwaadix fi dabyi can muctaqadi salafi saalix oo uu qoray aniga oo ah sheekh abubakar xasan maalim kitaabkaas daabacaddiisii ugu horraysay waxaa la daabacay bishii 17 1425 haddaba marka waxaa noo bilaabanaya kitaabkaas oo aanu dadka muslimiinta ah ugu soo gudbinayno afka soomaaliga bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaawnaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista oo adduunka naxariistiisu ay ballaaran tahay oo muslimiintana adduunka ugu naxariista gaalada xataa ugu naxariista maxaa yeelay gaalku caafimaadka uu haysto iyo hantida uu haysto wuxuu ku haystaa raxmad eebbe ee hadduusan ilaahay u naxariisan lahayn daqiiqad ma noolaadeen marka adduunkan naxariistiisa ilaahay waa ku ballaarantaho muslimiintana wuu u naxariistaa gaaladana wuu u naxariistaa allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista gaarkaa ilaahay wuxuu bixiyaa aakhire markii la tago raxmaddiisu waxay ku gaar tahay dadka muslimiinta ah oo qof gaala aakhiro ilaahay agtiisa uma yaallaan wax naxariisa alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allahaasoo alwaasici alfadli fadligiisu ballaaraa waljuudi deeqsinimadiisuna ay ballaarayd waxa mahad iska leh allaha fadligiisu ballaaran yahay deeqsinimadiisuna ay ballaaran tahay alladii allahaasoo khadacat lahu allahaas ay u hoggaansantay samaawaadku ay u hoggaansameen samaawaadkaasoo as-sabcu 7 ah waalardu ardaduna ay u hoggaansantay waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaadka iyo ardada dhexdooda ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u hoggaansamay 7 samo iyo 7 ardo iyo waxa ku dhex jira oo dhan kulligood ilaahay maamulkiisa ayay ku jiraan qof ilaahay la maamushaana ma jiraan daqiiqaddii uu doono ayuu ilaahay dhammaantoodba halaagi karaa daqiiqadduu doono ayuu ilaahay u naxariisan karaa intuu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejin karaa awooddiisa ballaaran ilaahay ayay u hoggaansamaan intaasi wax ilaahay kula taliyaana ma jiraan tanazaha ilaahay wuxuu ka fogaaday can ilandaadi andaad ayuu ilaahay ka fogaaday andaadka ereyga andaad waa jamcu niddin ayaa waxaa lagu jamciyey andaad lagu jamciyey niddiga af carabiga waxaa lagu yidhaahaa annadiiru waalmathiil midka adiga kula midka ah ayaa waxaa la yidhaahaa niddi kaas ayaa marka waxaa lagu jamciyey andaad waxaana laga soo qaatay qowlka ilaahay uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay ha u yeelinina andaad waxyaalo ilaahay la mida marka ilaahay wuxuu ka fogaaday wax isaga la mida oo daatadiisa kula mida daatada ilaahay wax kula midihi ma jiraan sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay wax qaadan karaahina ma jiraan oo kula mida sidaas oo kale afcaasha wax kula midihi ma jiraan oo ficilka ilaahay uu sameeyo qof samayn karta ee makhluuqaadkiisa ka midihi ma jirto wal arkaani xubno qaali ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaaday arkaanku waa jamcu rukni ayaa la jamciyey oo arkaan lagu jamciyey ulajeeddada marka arkaanta laga leeyahay waxaa weeye waa xubno qaali ah oo haddii shakhsiga laga siibo isla markaaba uu baaba'aayo qofku uuna dhimanaayo xubno noocaas oo kale ah ilaahay ma laha oo la leeyahay haddii ilaahay xubnahaas uu waayo
wuu baabi'i lahaa oo wuu dhiman isaga dhanba laleeyahay ma jirto tusaale ahaan annagu xubno noocaasa waanu leenahay sida madaxa oo kale haddii annaga madaxa nala ka gooyo oo kow nala ka siiyo wax nolol ah oo meeshaa yaallaahi ma jiraan sidaasoo kale haddii beerka iyo wadnaha nala ka saaro nololi ma jirto laakiin ilaahay arrimahaasi waa ka fogaaday oo lama odhan karo ilaahay wuxuu leeyahay xubno haddii laga saaro uu isaga dhani baaba'aayo wal aalaati aalaad ayuu ilaahay ka marnaaday qalabyaal ilaahay qalab uu ku qaraabto ama uu ku adeegto ama uu wax ku dilo ma lahan ilaahay subxaanahu wa tacaala yumiitu bilaa aala ilaahay hub la'aan ayuu wax dilaa iyo qalab la'aan qofka markuu doonaayo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu dilo uma baahna inuu hub u soo qaato laakiin adigu markaad doonayso qof inaad toogato ama aad disho waxaad u baahan tahay inaad hub u adeegsato maahana kuma dhimanaayo waryaa dhimo waryaa kuma dhimanaayo laakiin ilaahay markuu doonaayo inuu qof dilo waxa ku filan kaliya inuu yidhaah kun ahaw qof meyda saas ayuu qofku balaq isaga leeyahay oo naftii ay ka bixi marka ilaahay aalo iyo qalab ma laha uu wax ku dilo laa yaxwiihi ilaahay ma koobo makaan ilaahay ma koobo oo ilaahay lama odhan karo subxaanahu wa tacaala meel ayuu deggan yahay iyo carshiga korkiisa ayuu joogaa ama dhulka ayuu joogaa lama odhan karo taasina waxa weeye waa caqiidadii ay ku lumeen qoladii la odhan jiray mushabbihada iyo raafidada ayaa caqiidadaas qabeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makaan u nisbeeyeen laakiin salafu saalix wax yidhi ilaahay makaan iyo boos ayuu leeyahay ma jiraan qur'aankuna ma sheegin nabigeennuna ma uusan sheegin sala allahu wasalama calayhi kitaabkii iyo sunnada laguma hayo wax ilaahay u qiray makaan iyo jiho waxaa sidaas oo kale aan la heli karin qof ka mida salafu saalix oo sanad saxiixa looga hayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugay makaan iyo jiha uu u sugay haddaba marka waxaa loo baahan yahay markaad doonayso caqiidadii asalafu saalix in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka nasahdo ama aad ka fogeydo wax la yidhaaho makaan maxaa yeelay makaan inuu ilaahay leeyahay oo carshiga uu joogo waa caqiidadii laga dhaxlay raafidada tusaale ahaan kitaabkan la yidhaaho alfarqu bayna alfiraq lambarkiisa 65 waxa uu ku qoray in caqiidadii raafidada ay odhan jireen ilaahay makaan ayuu leeyahay wuxuuna degan yahay carshiga marka kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq waa kitaab muhima waxa qoray sheekh la dhihi jiray cabdulqaahir ibnu taahir albagdaadi sheekhaasi wuxuu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 429 ayuu sheekhaasi geeriyooday culimmadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu qarka u saarnaa inuu salaf noqdo ayuu qarka u saarnaa sheekhaasi kitaabkaasi wuxuu ka hadlaa firaqii islaamka soo maray iyo waxyaalahay caqiidaysnaayeen haddaba kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq cabdulqaahir albaqdaadi wuxuu ku yidhi lambarka 65 zacama hishaam bnulxakam hishaam binulxakam ninkii la dhihi jiray wuxuu sheegtay anna macbuudahu jismun duu xaddin wa nihaaya ilaaha uu caabudaayo inuu jismi leeyahay soohdinna uu leeyahay meel uu ku dhammaadana uu leeyahay wuxuuna dhihi jiray wa makaanuhu huwa alcarshu booska ilaahay uu degan yahana waa carshiga ayuu dhihi jiray ninkaas raafidada ayuu ka mid ahaa haddaba walaalkayga muslimahow ogaaw haddii aad ilaahay tidhaahid makaan ayuu leeyahay meesha uu degan yahay makaankiisuna waa carshiga aad tidhaahid inay kuu soo dhuumatay caqiidadii raafidada ee aadan shaqo ku lahayn caqiidadii salafu saalix iyo midii laga dhaxlay nabigeenna sala allahu wasalama calayhi iyadoo faahfaahsanna kitaabkan gudihiisa ay noogu iman doontaa walaa yajri calayhi ilaahay korkiisa kuma socdo zamaanun wax zamanah oo ilaahay ku socdaahi ma jiraan oo lama odhan karo ilaahay wuxuu jiraa 100 sano ilaahay wuxuu jiraa 1000 sano ilaahay wuxuu jiraa 1 bilyan oo sano lama odhan karo wax zamana oo ilaahay lagu tilmaami karaahi ma jiraan maxaa yeelay zamanka intaan la abuurin ayuu alla jiri jiray subxaanahu wa tacaala khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alcarsha carshiga ayuu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuuna carshiga ilaahay u abuuray idhaaran liajli idhaarin muujin awgeed liqudratihi awooddiisa uu muujinaayo ilaahay carshiga wuxuu u abuuray inuu awooddiisa ballaaran muujiyo maxaa yeelay carshigu waa makhluuq aad u weyn
ومخلوق أبلارا ويننتا يبلار رداسي وحي كتوسنيسا إلهي سبحانه وتعالى عرشقاس اللي أبوري إنو يهي الله أودي سؤاد يبلارا تهي لا مكان أبور عرشقاسي بوس إنو أهاده لذاته ذات إلهي إنو بوس أهاده إلهي عرشق أبور أو أوصن أبور إنو إلهي الدقنادو أو عرشق أقوري كدكت أما أو عرشق مكان يبوس وكدكت إلهي أوصن أبور عرشق قد حقيقة كان إلهي وأهاجري وأنا جري وليس والحال لا مكان بوس وسنجرين أساقو عرش وسنجرين أما واحد بوس اللي يرأي سنجرين أيو إلهي جري تاسنا قف مسلم أو إنكري كرتاهي مجرته انت بوس وسنجرين أما عرش وسنجرين أيو إلهي جري سبحانه وتعالى وهو إلهينا الآن هدير على ما ملذي كي كركيس أيو هذي كان إلهي عليه ما قادوشي سأو هذي قبل خلق المكان مكانك أبورستي سكهر انتو سن عرشك إيا مكانك أبورن كهر سيدو أهاجري أيو هدنا يهي عقيدة توسن سلفنا الصالح لقد حلي ولا ليالوا مدهس هدهن إلهي عرشك أيو جوغا ملكو جوغانا هدهن ذات ديسو مالهني جوغتانا هدهن واحد دهيسا إلهي سبحانه وتعالى عرشك إيا أدون كان دن انتو سن أبورن سوء هاي أيو هدنا يهي ما اسبدلين وحسبدلنا الله كمدعين سبحانه وتعالى وأشد وحان قرسنها أن لا إله كلا سنجرين إلا الله إلهي ما هنئ وحده منفردا كلي حالو يهي لا شريك وحشرك إلهي له لله إلهي ومسغنان وحشرك كلاء صفات كيسة إيا أفعاشيسة إيا ذات ديسة وحال شرك كلاء مجران شهادة قرتان أيان قري شهادة سو تكون أهاتا ذخرا كيد لنا أنك كيد نو أهاتا يوم مالين كيد نو أهاتا تبيض وجوه وجيالك قاركود أي عدان دونان وتسود وجوه وجيالك قاركود أي مدوغان دونان يوم تبيض وجوه وجيالك قاركود مالين أي عدان دونان كيد نو أهاتا وتسود وجوه وجيال قاركود أي مدوغان دونان ومالين قيامها أو ضدك مؤمنين تأه يا أهل الجنة وجيقود وبربرقها يو هلهلاعها يو maalintaas shahaado kayd noo noqota ayaanu ilaahay u qiraynaa subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii eebbe iyo wasalaamu nabadgelyadii eebbe calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allah yeelo muxammedin ah khaatami ambiyaa'ihi ilaahay ambiyadiisa ambiyadaas nabigii lagu khatimay ah sala allahu wasalam calayhi khaatam haddaad akhriso bifatxi taa waa faacal bimacnaa mafcuul ah ambiyadiisa lagu khatimay waxaad kalood akhrin kartaa bikasri taa inaad taada hoos dhigtid oo tidhaahid khaatimi ambiyaa'ihi ambiyadiisa khatimay wey wacalaa aalihi ilaahay aalkiisa wacalaa aalihi nabiga aalkiisa aalkaa dushoodana allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo wa saxaabatihi wacalaa saxaabatihi nabiga asxaabtiisii asxaabtaa dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo asxaabtaasoo alkiraami ee wanwanaagsanaa ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu intaas ka bacdi بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام بسنكي يا حمدكي صلقي يا سلامتي انت اسكبعدي فاعلم أقاو أن العقيدة عقيدة سوى الصحيحة الصحدة هي عقيدة صحدة سبيل الفلاح والليبان توضدي والسعادة الليبان توضدي عقيدة الصحدة ووضدها أمري كرتو الليبان هذا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة دحديدنا للليبانو الدنيا مركا دونيسو ليبان إناد كهشو آخرنا دونيسو إناد ليبانتو ولالكيغا توسنو عقيدة هذا اسكها جاجي أو صح ولهذا لكون العقيدة الصحيحة سبيل الفلاح والسعادة ما دام عقيدة صحراء أي تهي وضل الكل ليبان أيه أي اتجهت وحيوجه ستي همم الدعاة إلى الله إلى دين الله دينت إلهي كوة ضدك أغيرا هم يالكود وحي أجهيستي قاطبة ضمانتو الحال أيهين إلى بناء العقيدة عقيدة باسمه ذا أي أجهيستي في النفوس نففيالك دحدو ذنا عقيدة اللقودسو ضدك الدعاء حل كستقو إجوغان وحي أود ساران عقيدة إن لبسو أو ضدك دحدو ذا أما النفوس دحدو ذا عقيدة صحدة اللقودسو لأنها محايا إلي عقيدة صحدة
أهم شيء وشيء متك أقوم سن شيء قاسو يشتغل به شيء المؤمن مؤمنك أكون مشغوله مؤمن كاسو الصادق في إيمانه إيمان كيسا كرون شيء قاية مؤمن كإيمان كيسا كرون شيء قاية وحا أكون مشغوله وحا أقوم سن عقيدة صحراء ولذا عقيدة صحراء walaalkaygiyow waa inaad aad u ilaashatid haddaba walaalayaal darsigeennii koowaad ee kitaabkii alhadyu alwaadix fi ldabbi can muctaqadi salafi saalix ayaa xilligan intaa inooga sinan wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد ولا ليال وحا نجعلنا هل كان إنا نكسو قد بنه عقيدة السلف الصالح عقيدة السلف الصالح أي إلهي سبحانه وتعالى أقدين لغن جرين عقيدة سلف الصالح وحا أن نكسو أروريني كتاب كان مقعيس اللي يراهو الهدي الواضح في الذب عن معتقد السلف الصالح كتاب كاس وحا أن نكسو أروريني سلف الصالح وسدح لي قرنئها القرون المفضلة سدح لي قرني oo ummadda laga fadilay nabigeenuna uu u qiray sallallahu wasallam alayhi inay ahaayeen dad ahlul khayr ah saddexda qarni aqeedadii ay aaminsanaayeen oo saafi ah ayaanu kitaabkan ku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala salafu saalix marka la leeyahay waa qarnigii boqolkii sano ee xilligii nabigeena alayhi salaatu wasalaam iyo boqolkii labaad ee ku xigay iyo boqolkii saddexaad saddexdaas qarni ayaa la isku yiraahaa salafu saalix haddaba saddexdaas qarni aqeedadii ay aaminsanaayeen oo xagga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka aaminsanaayeen ayaanu kitaabkan ku soo gudbin doonaa alhadyu alwaadix fi dabbi can muctaqadi salafi saalix haddaba walaalayaal waxaan wax shakiyihi uusan ku jirin aqeedada islaamku in ay soo martay heerar kala duwan heerarkaas kala duwan inay mari doontana waxa inoo cadeeyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ayaa waxa nabigeena uu ku yidhi sallallahu wasallam calayh layaatiyanna calaa ummatii maa ataa calaa bani israa'iil تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا يا رسول الله وما الملة التي تتغلب قال ما أنا عليه وأصحابي حديث كاس إمام الترمذي أيا وريي أسانيد فربضا أيون كسو أروري ووحى حديث كان نبيك كسو قاضي كنوريي صلى الله وسلم عليه جماعة فربضان اي صحابة كمدا وحانا صحابة النبيك حديث كم غشي كمدا أنس بن مالك أبي هريرة أبو الدرداء جابر بن عبد الله أبي سعيد الخدر أبي بن كعب عبد الله بن عمرو بن العاص أبي أمامة واثلة بن الأسقع يرك فربضان اي صحابة النبيك كمدا صلى الله وسلم عليه يا حديث كان نبيك كمغلي haddaba xadiiskaas walaalayaal waxa uu leeyahay ummadayda waxa uu imanaya wixii reer banu Israa'iil u yimid oo khilaafa oo kale reer banu Israa'iil waxa ay ku kala tageen 72 firqo ummadayduna waxay u kala tagi doontaa 73 firqo waxayna dheeraad kala noqon doontaa reer banu Israa'iil hal firqo 73 firqo kulligood waa ahlun naar ilaa hal firqo oo keliya maahane markii ay su'aaleen saxaabadu nabiga sallallahu wasallam alayhi oo yiraaheen rasuulka ilaahayow maxay tahay firqada gaalibka ah ama diinta saxda ah ku socota aqeedadeeduna ay tahay nadiifka
wuxuu nabigu ku jawaabay sala allahu wasalam calayhi maa ana calayhi wa asxaabii aniga iyo asxaabtaydu waxa aanu ku sugannahay oo xagga caqiidada iyo hadyiga ah taas ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi ayaa badbaadaysa ahluljannana ah wixii kale oo ka soo haray waa ahlunaar haddaba walaalayaal si loo ogaado xaqaa'iqa millada ama firqada nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalam calayhi inay badbaadayso ayaa waxay tahay nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi wixii uu haystay saxaabadiisuna ay haysteen salafu saalixna ay aaminsanaayeen waxaana shaki ku jirin caqiidadu heerar kala duwan in ay soo martay muslimiintu xilligii nabigeenna sala allahu wasalam calayhi uu noolaa waxa ay ku socdeen hal waddo oo keli ah wax khilaafana uma dhexaynin xagga usuusha iyo xagga furuucda midnaba khilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa markii nabigeennu geeriyooday sala allahu wasalam calayhi maxaa yeelay qoom saxaabada ka mida ayaa waxay yidhaaheen ma uusan geeriyoon nabigu sala allahu wasalam calayhi mana dhiman laakiin samada ayaa loo kor yeelay sida nebi ciiseba samada loogu kor yeelay khilaafkani waxaa baabi'iyey sayidunaa abubakar asidiiq markii uu aqriyey aayadda qur'aanka ah ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalama calayhi dadka kalena way dhimanahayaan waxaa kaloo uu aqriyey wamaa muxammedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebi moxamed sala allahu wasalama calayhi rasuul maahane wax kale ma aha isagana waxaa hortiisa geeriyootay rusul kale oo isaga ka horraysay hadduu geeriyoodo ama la dilo ma gaalnimadiinnii ayaa dib ugu laabanaysaan aayaddaas markuu aqriyey sayidunaa abubakar khilaafkaasi wuu baaba'ay muslimiintii dhammaantoodna waxay isla qireen nabigu inuu geeriyooday sala allahu wasalama calayhi khilaafkii labaad ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa in ay isku khilaafeen meesha nabiga lagu aasaayo sala allahu wasalama calayhi saxaabada qaar ka mida ayaa waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa magaalada maka maadaama magaalada uu ku dhashay markii horena laga soo saaray magaaladaas qiblada uu u dukanayana ay ahayd dhinaca maka ubadkiisuna meesha uu ku dhalay uuna ku guursadana ay ahayd magaalada maka midda kale waxay yidhaaheen qoladaasi nabiga awowihii sala allahu wasalama calayhi oo ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ah ayaa maka ku aasan qolo saxaabada ka mida ayaa fikri kaa ka duwan soo jeediyeen waxayna yidhaaheen magaalada madiine ayaa lagu aasi maxaa yeelay waa magaaladii uu u soo haajiray waa magaaladii masjidka uu ka dhisay sala allahu wasalama calayhi qolo kalena waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa masjidka weyn ee la yidhaaho almasjid alaqsa waa masjidkan hadda yahuuddu gacanta ay ku hayso masjidkaas ayaannu ku aasaynaa ayay yidhaaheen maxaa yeelay halkaa waxaa ku xabaalan nabiga awowayaashiisii mid ka mida waa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam haddaba khilaafkani wuxuu baaba'ay markii sayidunaa abubakar uu saxaabada u sheegay xadiis arrinkaa ka hadlahaya inuu jiro xadiiskaas oo dhahaya ina alambiyaa'a yudfanuuna xaysu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa meesha naftu uga baxday sidaas ayaa marka khilaafkaasi u baaba'ay waxayna ku dhaqmeen xadiiskaas abubakar uu nabiga uga sheegay sala allahu wasalama calayhi oo tusaalaynahaya ambiyada in lagu aasahayo meesha naftu uga baxday sidaas ayaana nabiga lagu aasay magaalada madiina sala allahu wasalama calayhi kabacdi waxay muslimiintu isku khilaafeen ummadda ninkii hoggaamin lahaa maadaama nabigeennu uu geeriyooday sala allahu wasalama calayhi ansaartii waxay yidhaaheen waxaa ummadda hoggaaminahaya sacd ibnu cubaada alkhasraji reer qurayshna waxay yidhaaheen imaamada iyo madaxtinimada waxaa qaadahaya reer quraysh uun markaas kabacdi khilaafkaasi wuu baaba'ay waxayna muslimiintii isku waafaqeen inuu hoggaamiyo assayid abubakar asidiiq muslimiintii marka waxay sidaa ku socdeen zaman dheer iyagoo iswaafaqsan oo wax khilaafahuna dhexdiisu aysan aalin waxay la dagaalamayeen dadka murtadiinta ah oo diinta dib uga laabtay iyo gaalada ayay dagaal ku qaadahayeen kabacdi marka waxaa dhacay
dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay madaxweynihii saddexaad asayid cuhmaan ibnu cafaan waxay isku khilaafeen kabacdi saxaabadu ruuxii ka dambeeyey sayid cuhmaan dilkiisa ee qorsheeyey fidno isdaba joog ah ayaa halkaa ka bilaabatay ilaa uu dhacay dagaalkii ay isaga hor yimaadeen sayidunaa caliy bni abi taalib iyo mucaawiyata bni abi sufyaan laakiin saxaabadaa dagaalka dhex maray wuxuu ahaa dagaal aan la odhan karin waxay la mid yihiin dagaallada jaahiliyada ee xilligan waddamadeenna ka dhacaya balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ijtihaad ku socda mid walbana wuxuu u dagaalamayey diinta haddaad hoggaamin lahayd way kor noqon lahayd marka dagaalkaa saxaabada dhex dhacay in laga gaabsado waxna aan laga sheegin sidaas ayaa salafu saalix caqiidadooda ay ku tageen iyadoo marka saxaabadu ay sidaa arrinkoodu yahay waxaa soo baxay xilligii mubtadicada waxaa qoorta sare u qaaday qolo mubtadica ah oo ku sheegtay saxaabada raggoodii waaweynaa in ay gaalo yihiin mubtadicadaas oo ay ugu horreeyeen qoladii la odhan jiray khawaarijtaas oo ahaa dad aad u cibaado badan masaajidana camira laakiin ku gaalnimo xugminaya saxaabada raggoodii waaweynaa ayaa soo baxay khawaarijtaas waxaa aad ula dagaalamay dabar gooyana sayidunaa caliy bni abi taalib rag fara badanna ka laayey gebagabadii ugu dambaysana iyaga ayaa toogtay sayidunaa caliy bni abi taalib sida taariikhda islaamku ay qortay kabacdi haddana waxaa soo baxay niman kale ee bidco ah ee la odhan jiray qadariya waxaana bidcadaas aasaasay nin la odhan jiray macbad aljuhani ayaa aasaasay ninkaas macbad aljuhani marka uu arrinkaa faafinayey muddo dheer wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa 80kii waxaa kaloo soo baxay nin la odhan jiray jacdu bnu dirham nin la odhan jiray ayaa soo baxay isaguna oo muslimiintii khilaaf xagga caqiidada uga abuuray ninkaas oo watay qur'aanka ilaahay waa makhluuq ninkaas isagana waxaa dilay khaalid ibnu cabdillaahi alqasri nin la odhan jiray ayaa dilay haddaba saxaabadu waxay ku gacan sayreen kana beri noqdeen mubtadicadii qoorta soo qaaday waxaana ka mid ahaa dadkii ka beri noqday saxaabigii weynaa ee la odhan jiray cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar nin saxaabiya ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi inna qawman yaqra'uuna alqur'aana kharajuu min qibalina qolo qur'aanka akhrinaysa ayaa waxay ka soo baxeen buu yidhi dhinaceenna wa yaquuluuna ina alamra unuf waxayna leeyihiin arrinku waa cusub yahay oo wax qadar ilaahay iyo qorshe ilaahay uu wataahi ma jiraan wax hore loo qadaray ee ilaahay hore uu u qorsheeyey ma jiraan ayay leeyihiin oo qofka insaanka ah wixii dhibaato ah ku dhaca ama khayr ee ku dhaca hore uguma qorrayn laakiin hadda uunbuu ilaahay bilaabi saas ayay qabeen qoladaas la odhan jiray qadariyada cabdullaahi ibnu cumar ayaa loo sheegay markaasuu ku yidhi akhbirhum annii barii'un minhum wa annahum buraa'aa'u minnii waxaad u sheegtaa buu yidhi qolada sidaa qabta inaan anigu beri ka ahay iyaguna ay beri u yihiin haddaba afarkaas waxaa wariyey imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey mujalladka ugu horreeya ayuu imaamu muslim uu ku wariyey in cabdullaahi ibnu cumar uu ka beri noqday qoladaa mubtadicada ah ee la odhan jiray qadariyada haddaba marka waxaa taa iyagana ku xigay qoladii la odhan jiray muctasiladu waxay soo baxeen xilligii uu noolaa imaamkii weynaa alxasan albisri waxayna muddo dheer ka akhrisan jireen casharrada diiniga ah kabacdi markii casharradii diiniga ay ka xambaareen sheekhoodii ayay khilaafeen waxaana ugu horreeyey nin sheekhiisa khilaafa ee abulxasan albasri imaam alxasan albasri khilaafa ninkii la odhan jiray waasil ibnu cataa ayaa ugu horreeyey muctasilada ninkii aasaasay ayuu ahaa waasil ibnu cataa wuxuu ku dhashay magaalada madiina sanadku markuu ahaa 80meeyadii wuxuuna geeriyooday 131dii ayuu geeriyooday waa shaykhu almuctasila awalu man adhara madhab alictizaal ayuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee madhabka ictizaalka ama bidcada muctasilada aasaasay ayuu ninkaasi ahaa waxaad kala xidhiiri kartaa ninkaa taariikhdiisa oo dhammaystiran kitaabka la yidhaaho lisaanu ulmiisaan ayaad kala xidhiiri kartaa oo ibnu xajar alcasqalaani sheekhan bukhaariga qoray uu iska leeyahay juska 6 lambarka 214 ayuu uga hadlay waxaad kalood ninkaa taariikhdiisa kala socon kartaa kitaabka la yidhaha albad'u wataariikh
juskiisa shanaad lambarka 142 haddaba marka alxasan albasri wuu ka beri noqday wuxuuna yidhi orod oo iga tag maadaama aad muujisay muslimiinta khilaafkoodii haddaba sida mubtadicadaas iyo wixii dariiqooda raacayba muslimiintu ay ugu baraarugaan kana beri noqdaan ayaanu waxaanu jecelnahay muslimiinta inaanu u soo gudbinno caqaa'idkii salafu saalix waxaana ku soo aruurinay kitaabkan alhadyu alwaadix fi dabyi can muctaqadi salafi saalix oo uu qoray aniga oo ah sheekh abubakar xasan maalim kitaabkaas daabacaddiisii ugu horreysay waxaa la daabacay bishii 17 1425 haddaba marka waxaa noo bilaabanayo kitaabkaas oo aanu dadka muslimiinta ah ugu soo gudbinayno afka Soomaaliga bismillaahi arrahmaani arrahiim bismillaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaawnaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista oo adduunka naxariistiisu ay ballaaran tahay oo muslimiintana adduunka ugu naxariista gaalada xataa ugu naxariista maxaa yeelay gaalku caafimaadka uu haysto iyo hantida uu haysto wuxuu ku haystaa raxmad eebbe ee hadduusan ilaahay u naxariisan lahayn daqiiqad ma noolaadeen marka adduunkan naxariistiisa ilaahay waa ku ballaarantaho muslimiintana wuu u naxariistaa gaaladana wuu u naxariistaa allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista gaarkaa ilaahay wuxuu bixiyaa aakhire markii la tago raxmaddiisu waxay ku gaar tahay dadka muslimiinta ah oo qof gaala aakhiro ilaahay agtiisa uma yaalaan wax naxariisa alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allahaasoo alwaasici alfadli fadligiisu ballaaraa waljuudi deeqsinimadiisuna ay ballaarayd waxaa mahad iska leh allaha fadligiisu ballaaran yahay deeqsinimadiisuna ay ballaaran tahay alladii allahaasoo khadacat lahu allahaas ay u hoggaansantay samaawaatku ay u hoggaansameen samaawaadkaasoo as-sabcu 7 ah waalardu ardaduna ay u hoggaansantay waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaadka iyo ardada dhexdooda ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u hoggaansamay 7 samo iyo 7 ardo iyo waxa ku dhex jira oo dhan kulligood ilaahay maamulkiisa ayay ku jiraan qof ilaahay la maamushaana ma jiraan daqiiqaddii uu doono ayuu ilaahay dhammaantoodba halaagi karaa daqiiqadduu doono ayuu ilaahay u naxariisan karaa intuu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejin karaa awooddiisa ballaaran ilaahay ayay u hoggaansamaan intaasi wax ilaahay kula taliyaana ma jiraan tanazaha ilaahay wuxuu ka fogaaday cani alandaadi andaad ayuu ilaahay ka fogaaday andaadka ereyga andaad waa jamcu niddin ayaa waxaa lagu jamciyey andaad lagu jamciyey niddiga af carabiga waxaa lagu yidhaahaa annadiiru waalmathiil midka adiga kula midka ah ayaa waxaa la yidhaahaa niddi kaas ayaa marka waxaa lagu jamciyey andaad waxaana laga soo qaatay qowlka ilaahay uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay ha u yeelinina andaad waxyaalo ilaahay la mida marka ilaahay wuxuu ka fogaaday wax isaga la mida oo daatadiisa kula mida daatada ilaahay wax kula midihi ma jiraan sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay wax qaadan karaahina ma jiraan oo kula mida sidaasoo kale afcaasha wax kula midihi ma jiraan oo ficilka ilaahay uu sameeyo qof samayn karta ee makhluuqaadkiisa ka midihi ma jirto wal arkaani xubno qaali ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaaday arkaanku waa jamcu rukni ayaa la jamciyey oo arkaan lagu jamciyey ulajeeddada marka arkaanta laga leeyahay waxaa weeye waa xubno qaali ah oo haddii shakhsiga laga siibo isla markaaba uu baaba'aayo qofku uuna dhimanaayo xubno noocaasoo kale ah ilaahay ma laha oo la leeyahay haddii ilaahay xubnahaas uu waayo wuu baabi'i lahaa oo wuu dhiman isaga dhanba la leeyahay ma jirto tusaale ahaan annagu xubno noocaasa waannu leenahay sida madaxa oo kale haddii annaga madaxa nala ka gooyo oo kownala ka siiyo wax nolol ah oo meeshaa yaallaahi ma jiraan sidaasoo kale haddii beerka iyo wadnaha nala ka saaro nololi ma jirto laakiin ilaahay arrimahaasi waa ka fogaaday oo lama odhan karo ilaahay wuxuu leeyahay xubno haddii laga saaro uu isaga dhani baaba'aayo wal aalaad ayuu ilaahay ka marnaaday qalabyaal ilaahay qalab uu ku qaraabto ama uu ku adeegto ama uu wax ku dilo ma lahan ilaahay subxaanahu wa tacaala yumiitu bilaa aala
ilaahay hub la'aan ayuu wax dilaa iyo qalab la'aan qofka markuu doonaayo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu dilo uma baahna inuu hub u soo qaato laakiin adigu markaad doonayso qof inaad toogato ama aad disho waxaad u baahan tahay inaad hub u adeegsato maahana kuma dhimanaayo waryaa dhimo waryaa kuma dhimanaayo laakiin ilaahay markuu doonaayo inuu qof dilo waxa ku filan kaliya inuu yidhaah kun ahaw qof meyda saas ayuu qofku balaq isaga leeyahay oo naftii ay ka bixi marka ilaahay aalo iyo qalab ma laha uu wax ku dilo laa yaxwiihi ilaahay ma koobo makaan ilaahay ma koobo oo ilaahay lama odhan karo subxaanahu wa tacaala meel ayuu deggan yahay iyo carshiga korkiisa ayuu joogaa ama dhulka ayuu joogaa lama odhan karo taasina waxa weeye waa caqiidadii ay ku lumeen qoladii la odhan jiray mushabbihada iyo raafidada ayaa caqiidadaas qabeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makaan u nisbeeyeen laakiin salafu saalix wax yidhi ilaahay makaan iyo boos ayuu leeyahay ma jiraan qur'aankuna ma sheegin nabigeennuna ma uusan sheegin sala allahu wasalama calayhi kitaabkii iyo sunnada laguma hayo wax ilaahay u qiray makaan iyo jiho waxaa sidaas oo kale aan la heli karin qof ka mida salafu saalix oo sanad saxiixa looga hayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugay makaan iyo jiha uu u sugay haddaba marka waxaa loo baahan yahay markaad doonayso caqiidadii asalafu saalix in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka nasahdo ama aad ka fogeydo wax la yidhaaho makaan maxaa yeelay makaan inuu ilaahay leeyahay oo carshiga uu joogo waa caqiidadii laga dhaxlay raafidada tusaale ahaan kitaabkan la yidhaaho alfarqu bayna alfiraq lambarkiisa 65 waxa uu ku qoray in caqiidadii raafidada ay oran jireen ilaahay makaan ayuu leeyahay wuxuuna degan yahay carshiga marka kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq waa kitaab muhima waxa qoray sheekh la dhihi jiray cabdulqaahir ibnu taahir albagdaadi sheekhaasi wuxuu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 429 ayuu sheekhaasi geeriyooday culimmadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu qarka u saarnaa inuu salaf noqdo ayuu qarka u saarnaa sheekhaasi kitaabkaasi wuxuu ka hadlaa firaqii islaamka soo maray iyo waxyaalahay caqiidaysnaayeen haddaba kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq cabdulqaahir albaqdaadi wuxuu ku yidhi lambarka 65 zacama hishaam bnulxakam hishaam binulxakam ninkii la dhihi jiray wuxuu sheegtay anna macbuudahu jismun duu xaddin wa nihaaya ilaaha uu caabudaayo inuu jismi leeyahay soohdinna uu leeyahay meel uu ku dhammaadana uu leeyahay wuxuuna dhihi jiray wa makaanuhu huwa alcarshu booska ilaahay uu degan yahana waa carshiga ayuu dhihi jiray ninkaas raafidada ayuu ka mid ahaa haddaba walaalkayga muslimahow ogaaw haddii aad ilaahay tidhaahid makaan ayuu leeyahay meesha uu degan yahay makaankiisuna waa carshiga aad tidhaahid inay kuu soo dhuumatay caqiidadii raafidada ee aadan shaqo ku lahayn caqiidadii salafu saalix iyo midii laga dhaxlay nabigeenna sala allahu wasalama calayhi iyadoo faahfaahsanna kitaabkan gudihiisa ay noogu iman doontaa walaa yajri calayhi ilaahay korkiisa kuma socdo zamaanun wax zamanah oo ilaahay ku socdaahi ma jiraan oo lama odhan karo ilaahay wuxuu jiraa 100 sano ilaahay wuxuu jiraa 1000 sano ilaahay wuxuu jiraa 1 bilyan oo sano lama odhan karo wax zamana oo ilaahay lagu tilmaami karaahi ma jiraan maxaa yeelay zamanka intaan la abuurin ayuu alla jiri jiray subxaanahu wa tacaala khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alcarsha carshiga ayuu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuuna carshiga ilaahay u abuuray idhaaran liajli idhaarin muujin awgeed liqudratihi awooddiisa uu muujinaayo ilaahay carshiga wuxuu u abuuray inuu awooddiisa ballaaran muujiyo maxaa yeelay carshigu waa makhluuq aad u weyn waa makhluuq aad u ballaaran weynintaa iyo ballaaridaasi waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigaas allihii abuuray inuu yahay alla awooddiisu aad ay u ballaaran tahay laa makaanan makaan uma abuurin carshigaasi boos inuu ahaado lidaatihi daatada ilaahay inuu boos u ahaado ilaahay carshiga uma abuurin oo uma uusan abuurin inuu ilaahay deganaado oo carshiga uu guri ka dhigto ama uu carshiga makaan iyo boos uu ka dhigto ilaahay uma uusan abuurin carshiga qad xaqiiqe kaana ilaahay waa ahaa jiray waana jiri jiray weligiis walxaal laa makaana boos uusan jirin
asagoo carshi uusan jirin ama wax boos la yidhaah aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray taasina qof muslima oo inkiri kartaahi ma jirto inta boos uusan jirin ama carshi uusan jirin ayuu ilaahay jiri jiray subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahayna al'aana haddeer calaa maa maladii kii korkiisa ayuu ahaaday kaana ilaahay calayhi maagaa dushiisa uu ahaaday qabla khalqi almakaan makaanka abuuristiisa ka hor intuusan carshiga iyo makaanka abuurin ka hor siduu ahaa jiray ayuu haddana yahay caqiidada toosan ee salafuna saalix laga dhaxlay walaalayaal waa middaas hadhihin ilaahay carshiga ayuu joogaa dhulkuu joogaana hadhihin daatadiisu meelahanay joogjoogtaana hadhihin waxaad dhehaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa carshiga iyo adduunkan dhan intuusan abuurin suu ahay ayuu haddana yahay dheh ma isbeddelin wax isbeddelana alla kuma dhicin subxaanahu wa tacaala wa ashaddu waxaan qirsanahay an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allaahu ilaahay maahane waxdahu munfaridan keligii xaal uu yahay laa shariika wax shirka ilaahay la ah lahu lilaahi ilaahay uma sugnaanin wax shirka kula ah sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa wax alla shirka kula ah ma jiraan shahaadatan qiritaan ayaan qiri shahaadadaasoo takuunu ahaata dukhran kayd lana annaga kayd noo ahaata yowma maalin kayd noo ahaata tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood ay caddaan doonaan wa taswaddu wujuuhun wejiyaalka qaarkoodna ay madoobaan doonaan yowma tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood maalinta ay caddaan doonaan kayd noo ahaata wa taswaddu wujuuhun wejiyada qaarkoodna ay madoobaan doonaan waa maalinta qiyaamaha oo dadka mu'miniinta ah ee ahluljannaha ah wejigooda uu birbirqahayo uu hilhillaacahayo maalintaas shahaado kayd noo noqota ayaannu ilaahay u qiraynaa subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii eebbe iyo wasalaamu nabadgelyadii eebbe calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo muxammedin ah khaatami ambiyaa'ihi ilaahay ambiyadiisa ambiyadaas nabigii lagu khatimay ah sala allahu wasalam calayhi khaatam haddaad akhriso bifatxi taa waa faacal bimacnaa mafcuul ah ambiyadiisa lagu khatimay waxaad kalood akhrin kartaa bikasri taa inaad ta'da hoos dhigtid oo tidhaahid khaatimi ambiyaa'ihi ambiyadiisa khatimay wey wa calaa aalihi ilaahay aalkiisa wa calaa aalihi nabiga aalkiisa aalkaa dushoodana allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo wa saxaabatihi wa calaa saxaabatihi nabiga asxaabtiisii asxaabtaa dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo asxaabtaasoo alkiraami ee wanwanaagsanaa ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu intaas ka bacdi bacda albasmala waalxamdalah waasalaati wassalaam bisinkii iyo xamdigii salligii iyo salaamtii intaas ka bacdi faclam ogaaw anna alcaqiidata caqiidada caqiidadaasoo asaxiixata ee saxda ah hiya caqiidadaa saxda ah sabiilu lfalaaxi waa liibaanta waddadeedii wasacaadati liibaanta waddadeedii caqiidada saxda ah waa waddada aad u mari karto liibaantaada fi ddunyaa waalaakhira addunya aakhira dhexdeedana la liibaano adduunyada markaad doonayso liibaan inaad ka hesho aakhirana aad doonayso inaad liibaanto walaalkayga toosanow caqiidadaada iska hagaaji oo sax walihaada likowni alcaqiidati alsaxiixati sabiila alfalaaxi waasacaada maadaama caqiidada saxda ah ay tahay waddada lagu liibaanaayo ayaa itajahad waxay u jihaysatay himamu dducaati ila allahi ilaa diin illaah diinta ilaahay kuwa dadka ugu yeedha himayaalkoodu waxay u jihaysatay qaatibatan dhammaantood xaal ay yihiin ilaa binaa'i alcaqiidati caqiidada dhismaheeda ayay u jeesatay fi nufuusi nafafyaalka dhexdoodana caqiidada lagu dhiso dadka ducaadda ah xilli kasta oo ay joogaan waxay awoodda saaraan caqiidada in la dhiso oo dadka dhexdooda ama nufuusta dhexdooda caqiidada saxdaa lagu dhiso li'annahaa maxaa yeelay caqiidada saxda ah ahamu shayin waa shay midka ugu muhiimsan shaygaasoo yashtaqilu bihi shayga almu'minu mu'minku uu ku mashquulo mu'minkaasoo assaadiqu fii iimaanihi iimaankiisa ka run sheegaaya mu'minka iimaankiisa ka run sheegaaya waxa uu ku mashquulo waxa ugu muhiimsan caqiidada saxda ah welidaa caqiidadaa saxda ah walaalkaygiyow waa inaad aad u ilaashatid haddaba walaalayaal darsigeennii koowaad ee kitaabkii alhadyu alwaadix fi ljaddi can muctaqadi salafi saalix ayaa xilligan intaa inooga sinan wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه، وبعد. ولا ليال waxa aanu jecelnahay halkan inaanu ka soo gudbinno caqiidatu salaf saalix, caqiidadii salafu saalix ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga diin dhigan jireen. caqiidada salafu saalix waxa aanu ku soo aroorinay kitaabkan magaciisa la yidhaaho alhadyu alwaadix fi adabbi can muctaqadi salafi saalix. kitaabkaas waxaanu ku soo aroorinay salafu saalix oo saddexdii qarni ahaa alquruunu almufadala, saddexdii qarni oo ummadda dhan laga fadilay, nabigeennuna uu u qiray sala allahu wasalama calayhi inay ahaayeen dad ahlulkhayr ah. saddexdaa qarni caqiidadii ay aaminsanaayeen oo saafi ah ayaannu kitaabkan ku soo gudbin doonnaa in shaa allahu tacaala. salafu saalix marka la leeyahay waa qarnigii 100kii sano ee xilligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, iyo 100kii labaad ee ku xigay, iyo 100kii saddexaad. saddexdaas qarni ayaa laysku yidhaahaa asalafu saalix. haddaba saddexdaas qarni caqiidadii ay aaminsanaayeen oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka aaminsanaayeen ayaannu kitaabkan ku soo gudbin doonnaa alhadyu alwaadix fi dabbi can muctaqadi salafi saalix. haddaba walaalayaal, waxaan wax shakiyihii uusan ku jirin caqiidada islaamku in ay soo martay heerar kala duwan. heerarkaas kala duwan inay mari doontana waxaa inoo caddeeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ayaa waxaa nabigeenna uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh: layaأtiyanna calىa ummatii maa ataa calىa bani israa'iil, tafaraqa banuu israa'iila calىa 72 mila, wasataftariqu ummatii calىa 73 mila, taziidu calayhim mila, kulluhum fi الnaar ilaa milatan waaxida. qaaluu yaa rasuula allahi wama almillatu alatii tatagallab? qaala maa ana calayhi wa asxaabii. xadiiskaas imaamu tirmidi ayaa wariyey, asaaniid fara badan ayuuna ku soo arooray, oo waxaa xadiiskaa nabiga ka soo qaaday kana wariyey sala allahu wasalama calayhi jamaaco fara badan ee saxaabada ka mid a. waxaana saxaabadaa nabiga xadiiska ka maqashay ka mid ahaa anas bnu maalik, abi hurayra, abudardaa, jaabir bni cabdillaah, abi saciid alkhudri, ubay bnu kacb, cabdullaahi bnu camr bni alcaas, abi umaama, waasilatu bnu alasqac, iyo rag fara badan ee saxaabada nabigeenna ka mida sala allahu wasalama calayhi ayaa xadiiskaa nabiga ka maqlay. haddaba xadiiskaas walaalayaal waxa uu leeyahay, ummaddayda waxaa u imanahaya wixii reer banu israa'iil u yimid oo khilaafa oo kale. reer banu israa'iil waxa ay ku kala tageen 72 firqo. ummaddayduna waxay u kala tegi doontaa 73 firqo, waxayna dheeraad kala noqon doontaa reer banu israa'iil 1 firqo. 73daas firqo kulligood waa ahlunaar ilaa 1 firqo oo keliya maahane. markii ay su'aaleen saxaabadu nabiga sala allahu wasalama calayhi oo ay yidhaaheen, rasuulka ilaahayow, maxay tahay firqada haalibka ah ama diinta saxda ah ku socota caqiidadeeduna ay tahay nadiifka? wuxuu nabigu ku jawaabay sala allahu wasalama calayhi: maa ana calayhi wa asxaabii, aniga iyo asxaabtaydu waxa aanu ku sugannahay oo xagga caqiidada iyo hadyiga ah, taas ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi ayaa badbaadaysa, ahluljannana ah, wixii kale oo ka soo haray waa ahlunaar. haddaba walaalayaal, si loo ogaado xaqaa'iqa millada ama firqada nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalama calayhi inay badbaadayso, ayaa waxay tahay nebi moxamed sala allahu wasalama calayhi wixii uu haystay saxaabadiisuna ay haysteen, salafu saalixna ay aaminsanaayeen.
waxaana shaki ku jirin caqiidadu heerar kala duwan in ay soo martay muslimiintu xilligii nabigeenna sala allahu wasallam calayhi uu noolaa waxa ay ku socdeen hal waddo oo keli ah wax khilaafana uma dhexaynin xagga usuusha iyo xagga furuucda midnaba khilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa markii nabigeennu geeriyooday sala allahu wasallam calayhi maxaa yeelay qoom saxaabada ka mida ayaa waxay yidhaaheen ma uusan geeriyoon nabigu sala allahu wasallam calayhi mana dhiman laakiin samada ayaa loo kor yeelay sida nebi ciiseba samada loogu kor yeelay khilaafkani waxaa baabi'iyey sayidunaa abubakar as-sidiiq markii uu aqriyey aayadda qur'aanka ah ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasallam calayhi dadka kalena way dhimanahayaan waxaa kaloo uu aqriyey wamaa muxammedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebi moxamed sala allahu wasallam calayhi rasuul maahane wax kale ma aha isagana waxaa hortiisa geeriyootay rusul kale oo isaga ka horraysay hadduu geeriyoodo ama la dilo ma gaalnimadiinnii ayaa dib ugu laabanaysaan aayaddaas markuu aqriyey sayidunaa abubakar khilaafkaasi wuu baaba'ay muslimiintii dhammaantoodna waxay isla qireen nabigu inuu geeriyooday sala allahu wasallam calayhi khilaafkii labaad ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa in ay isku khilaafeen meesha nabiga lagu aasaayo sala allahu wasallam calayhi saxaabada qaar ka mida ayaa waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa magaalada maka maadaama magaalada uu ku dhashay markii horena laga soo saaray magaaladaas qiblada uu u dukanayana ay ahayd dhinaca maka ubadkiisuna meesha uu ku dhalay uuna ku guursadana ay ahayd magaalada maka midda kale waxay yidhaaheen qoladaasi nabiga awowihii sala allahu wasallam calayhi oo ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ah ayaa maka ku aasan qolo saxaabada ka mida ayaa fikri kaa ka duwan soo jeediyeen waxayna yidhaaheen magaalada madiine ayaa lagu aasi maxaa yeelay waa magaaladii uu u soo haajiray waa magaaladii masjidka uu ka dhisay sala allahu wasallam calayhi qolo kalena waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa masjidka weyn ee la yidhaaho almasjid alaqsa waa masjidkan hadda yahuuddu gacanta ay ku hayso masjidkaas ayaannu ku aasaynaa ayay yidhaaheen maxaa yeelay halkaa waxaa ku xabaalan nabiga awowayaashiisii mid ka mida waa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam haddaba khilaafkani wuxuu baaba'ay markii sayidunaa abubakar uu saxaabada u sheegay xadiis arrinkaa ka hadlahaya inuu jiro xadiiskaas oo dhahaya ina alambiyaa'a yudfanuuna xaysu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa meesha naftu uga baxday sidaas ayaa marka khilaafkaasi u baaba'ay waxayna ku dhaqmeen xadiiskaas abubakar uu nabiga uga sheegay sala allahu wasallam calayhi oo tusaalaynahaya ambiyada in lagu aasahayo meesha naftu uga baxday sidaas ayaana nabiga lagu aasay magaalada madiina sala allahu wasallam calayhi kabacdi waxay muslimiintu isku khilaafeen ummadda ninkii hoggaamin lahaa maadaama nabigeennu uu geeriyooday sala allahu wasallam calayhi ansaartii waxay yidhaaheen waxaa ummadda hoggaaminahaya sacd ibnu cubaada alkhasraji reer qurayshna waxay yidhaaheen imaamada iyo madaxtinimada waxaa qaadahaya reer quraysh uun markaas kabacdi khilaafkaasi wuu baaba'ay waxayna muslimiintii isku waafaqeen inuu hoggaamiyo assayid abubakar as-sidiiq muslimiintii marka waxay sidaa ku socdeen zaman dheer iyagoo iswaafaqsan oo wax khilaafahuna dhexdiisu aysan aalin waxay la dagaalamayeen dadka murtadiinta ah oo diinta dib uga laabtay iyo gaalada ayay dagaal ku qaadahayeen kabacdi marka waxaa dhacay dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay madaxweynihii saddexaad asayid cuhmaan ibnu cafaan waxay isku khilaafeen kabacdi saxaabadu ruuxii ka dambeeyey sayid cuhmaan dilkiisa ee qorsheeyey fidno isdaba joog ah ayaa halkaa ka bilaabatay ilaa uu dhacay dagaalkii ay isaga hor yimaadeen sayidunaa caliy bni abi taalib iyo mucaawiyatu bni abi sufyaan laakiin saxaabadaa dagaalka dhex maray wuxuu ahaa dagaal aan la odhan karin waxay la mid yihiin dagaallada jaahiliyada ee xilligan waddamadeenna ka dhacaya balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ijtihaad ku socda
mid walbana wuxuu u dagaalamayey diinta haddaad hoggaamin lahayd way kor noqon lahayd marka dagaalkaa saxaabada dhex dhacay in laga gaabsado waxna aan laga sheegin sidaas ayaa salafu saalix caqiidadooda ay ku tageen iyadoo marka saxaabadu ay sidaa arrinkoodu yahay waxaa soo baxay xilligii mubtadicada waxaa qoorta sare u qaaday qolo mubtadica ah oo ku sheegtay saxaabada raggoodii waaweynaa in ay gaalo yihiin mubtadicadaas oo ay ugu horreeyeen qoladii la odhan jiray khawaarijtaas oo ahaa dad aad u cibaado badan masaajidana camira laakiin ku gaalnimo xugminaya saxaabada raggoodii waaweynaa ayaa soo baxay khawaarijtaas waxaa aad ula dagaalamay dabar gooyana sayidunaa caliy bni abi taalib rag fara badanna ka laayey gebagabadii ugu dambaysana iyaga ayaa toogtay sayidunaa caliy bni abi taalib sida taariikhda islaamku ay qortay kabacdi haddana waxaa soo baxay niman kale ee bidco ah ee la odhan jiray qadariya waxaana bidcadaas aasaasay nin la odhan jiray macbad aljuhani ayaa aasaasay ninkaas macbad aljuhani marka uu arrinkaa faafinayey muddo dheer wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa 80kii waxaa kaloo soo baxay nin la odhan jiray jacd bnu dirham nin la odhan jiray ayaa soo baxay isaguna oo muslimiintii khilaaf xagga caqiidada uga abuuray ninkaas oo watay qur'aanka ilaahay waa makhluuq ninkaas isagana waxaa dilay khaalid bnu cabdillaahi alqasri nin la odhan jiray ayaa dilay haddaba saxaabadu waxay ku gacan sayreen kana beri noqdeen mubtadicadii qoorta soo qaaday waxaana ka mid ahaa dadkii ka beri noqday saxaabigii weynaa ee la odhan jiray cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar nin saxaabiya ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi inna qawman yaqra'uuna alqur'aana kharajuu min qibalina qolo qur'aanka akhrinaysa ayaa waxay ka soo baxeen buu yidhi dhinaceenna wa yaquuluuna ina alamra unuf waxayna leeyihiin arrinku waa cusub yahay oo wax qadar ilaahay iyo qorshe ilaahay uu wataahi ma jiraan wax hore loo qadaray ee ilaahay hore uu u qorsheeyey ma jiraan ayay leeyihiin oo qofka insaanka ah wixii dhibaato ah ku dhaca ama khayr ee ku dhaca hore uguma qorrayn laakiin hadda uunbuu ilaahay bilaabi saas ayay qabeen qoladaas la odhan jiray qadariyada cabdullaahi bnu cumar ayaa loo sheegay markaasuu ku yidhi akhbirhum annii barii'un minhum wa annahum buraa'aa'u minnii waxaad u sheegtaa buu yidhi qolada sidaa qabta inaan anigu beri ka ahay iyaguna ay beri u yihiin haddaba afarkaas waxaa wariyey imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey mujalladka ugu horreeya ayuu imaamu muslim uu ku wariyey in cabdullaahi bnu cumar uu ka beri noqday qoladaa mubtadicada ah ee la odhan jiray qadariyada haddaba marka waxaa taa iyagana ku xigay qoladii la odhan jiray muctasiladu waxay soo baxeen xilligii uu noolaa imaamkii weynaa alxasanu albisri waxayna muddo dheer ka akhrisan jireen casharrada diiniga ah kabacdi markii casharradii diiniga ay ka xambaareen sheekhoodii ayay khilaafeen waxaana ugu horreeyey nin sheekhiisa khilaafa ee abulxasan albasri imaam alxasan albasri khilaafa ninkii la odhan jiray waasil ibnu cataa ayaa ugu horreeyey muctasilada ninkii aasaasay ayuu ahaa waasil ibnu cataa wuxuu ku dhashay magaalada madiina sanadku markuu ahaa 80meeyadii wuxuuna geeriyooday 131dii ayuu geeriyooday waa shaykhu almuctasila awalu man adhara madhab alictizaal ayuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee madhabka ictizaalka ama bidcada muctasilada aasaasay ayuu ninkaasi ahaa waxaad kala xidhiiri kartaa ninkaa taariikhdiisa oo dhammaystiran kitaabka la yidhaaho lisaanu ulmiisaan ayaad kala xidhiiri kartaa oo ibnu xajar alcasqalaani sheekhan bukhaariga qoray uu iska leeyahay juska 6 lambarka 214 ayuu uga hadlay waxaad kalood ninkaa taariikhdiisa kala socon kartaa kitaabka la yidhaha albad'u wataariikh juskiisa 5 lambarka 142 haddaba marka alxasanu albasri wuu ka beri noqday wuxuuna yidhi orod oo iga tag maadaama aad muujisay muslimiinta khilaafkoodii haddaba sida mubtadicadaas iyo wixii dariiqooda raacayba muslimiintu ay ugu baraarugaan kana beri noqdaan ayaannu waxaannu jecelnahay muslimiinta inaannu u soo gudbinno caqaa'idkii salafu saalix waxaana ku soo aruurinay kitaabkan alhadyu alwaadix fi dabyi can muctaqadi salafi saalix oo uu qoray aniga oo ah sheekh abubakar xasan maalim kitaabkaas daabacaddiisii ugu horraysay waxaa la daabacay
bishii toddobaad 17 1425 haddaba marka waxaa noo bilaabanayo kitaabkaas oo aanu dadka muslimiinta ah ugu soo gudbinayno afka Soomaaliga bismillaahi arrahmaani arrahiim bismillaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaawnaa allahaas oo arrahmaani naxariista guud naxariista oo adduunka naxariistiisu ay ballaaran tahay oo muslimiintana adduunka ugu naxariista gaalada xataa ugu naxariista maxaa yeelay gaalku caafimaadka uu haysto iyo hantida uu haysto wuxuu ku haystaa raxmad eebbe ee hadduusan ilaahay u naxariisan lahayn daqiiqad ma noolaadeen marka adduunkan naxariistiisa ilaahay waa ku ballaarantaho muslimiintana wuu u naxariistaa gaaladana wuu u naxariistaa allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista gaarkaa ilaahay wuxuu bixiyaa aakhire markii la tago raxmaddiisu waxay ku gaar tahay dadka muslimiinta ah oo qof gaala aakhiro ilaahay agtiisa uma yaalaan wax naxariisa alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allahaasoo alwaasici ee alwaasici alfadli fadligiisu ballaaraa waljuudi deeqsinimadiisuna ay ballaarayd waxa mahad iska leh allaha fadligiisu ballaaran yahay deeqsinimadiisuna ay ballaaran tahay alladii allahaasoo khadacat lahu allahaas ay u hoggaansantay samaawaadku ay u hoggaansameen samaawaadkaasoo as-sabcu toddobada ah waalardu ardaduna ay u hoggaansantay waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaadka iyo ardada dhexdooda ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u hoggaansamay toddobada samo iyo toddobada ardo iyo waxa ku dhex jira oo dhan kulligood ilaahay maamulkiisa ayay ku jiraan qof ilaahay la maamushaana ma jiraan daqiiqaddii uu doono ayuu ilaahay dhammaantoodba halaagi karaa daqiiqadduu doono ayuu ilaahay u naxariisan karaa intuu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejin karaa awooddiisa ballaaran ilaahay ayay u hoggaansamaan intaas wax ilaahay kula taliyaana ma jiraan tanazaha ilaahay wuxuu ka fogaaday can ilandaadi andaad ayuu ilaahay ka fogaaday andaadka ereyga andaad waa jamcu niddin ayaa waxaa lagu jamciyey andaad lagu jamciyey niddiga af carabiga waxaa lagu yidhaahaa annadiiru waalmathiil midka adiga kula midka ah ayaa waxaa la yidhaahaa niddi kaas ayaa marka waxaa lagu jamciyey andaad waxaana laga soo qaatay qowlka ilaahay uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay ha u yeelinina andaad waxyaalo ilaahay la mida marka ilaahay wuxuu ka fogaaday wax isaga la mida oo daatadiisa kula mida daatada ilaahay wax kula midahi ma jiraan sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay wax qaadan karaahina ma jiraan oo kula mida sidaasoo kale afcaasha wax kula midahi ma jiraan oo ficilka ilaahay uu sameeyo qof samayn karta ee makhluuqaadkiisa ka midahi ma jirto wal arkaani xubno qaali ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaaday arkaanku waa jamcu rukni ayaa la jamciyey oo arkaan lagu jamciyey ulajeeddada marka arkaanta laga leeyahay waxaa weeye waa xubno qaali ah oo haddii shakhsiga laga siibo isla markaaba uu baaba'aayo qofku uuna dhimanaayo xubno noocaas oo kale ah ilaahay ma laha oo la leeyahay haddii ilaahay xubnahaas uu waayo wuu baabi'i lahaa oo wuu dhiman isaga dhanba la leeyahay ma jirto tusaale ahaan annagu xubno noocaasa waannu leenahay sida madaxa oo kale haddii annaga madaxa nala ka gooyo oo kow nala ka siiyo wax nolol ah oo meeshaa yaallaahi ma jiraan sidaasoo kale haddii beerka iyo wadnaha nala ka saaro nololi ma jirto laakiin ilaahay arrimahaasi waa ka fogaaday oo lama odhan karo ilaahay wuxuu leeyahay xubno haddii laga saaro uu isaga dhani baaba'aayo wal aalaad ayuu ilaahay ka marnaaday qalabyaal ilaahay qalab uu ku qaraabto ama uu ku adeegto ama uu wax ku dilo ma lahan ilaahay subxaanahu wa tacaala yumiitu bilaa aala ilaahay hub la'aan ayuu wax dilaa iyo qalab la'aan qofka markuu doonaayo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu dilo uma baahna inuu hub u soo qaato laakiin adigu markaad doonayso qof inaad toogato ama aad disho waxaad u baahan tahay inaad hub u adeegsato maahana kuma dhimanaayo waryaa dhimo waryaa kuma dhimanaayo laakiin ilaahay markuu doonaayo inuu qof dilo waxa ku filan kaliya inuu yidhaah kun ahaaw qof meyda saas ayuu qofku balaq isaga leeyahay oo naftii ay ka bixi marka ilaahay aalo iyo qalab ma laha uu wax ku dilo laa yaxwiihi ilaahay ma koobo makaan ilaahay ma koobo
oo ilaahay lama odhan karo subxaanahu wa tacaala meel ayuu deggan yahay iyo carshiga korkiisa ayuu joogaa ama dhulka ayuu joogaa lama odhan karo taasina waxa weeye waa caqiidadii ay ku lumeen qoladii la odhan jiray mushabbihada iyo raafidada ayaa caqiidadaas qabeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makaan u nisbeeyeen laakiin salafu saalix wax yidhi ilaahay makaan iyo boos ayuu leeyahay ma jiraan qur'aankuna ma sheegin nabigeennuna ma uusan sheegin sala allahu wasalama calayhi kitaabkii iyo sunnada laguma hayo wax ilaahay u qiray makaan iyo jiho waxaa sidaas oo kale aan la heli karin qof ka mida salafu saalix oo sanad saxiixa looga hayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugay makaan iyo jiha uu u sugay haddaba marka waxaa loo baahan yahay markaad doonayso caqiidadii asalafu saalix in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka nasahdo ama aad ka fogeydo wax la yidhaaho makaan maxaa yeelay makaan inuu ilaahay leeyahay oo carshiga uu joogo waa caqiidadii laga dhaxlay raafidada tusaale ahaan kitaabkan la yidhaaho alfarqu bayna alfiraq lambarkiisa 65 waxa uu ku qoray in caqiidadii raafidada ay odhan jireen ilaahay makaan ayuu leeyahay wuxuuna deggan yahay carshiga marka kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq waa kitaab muhima waxa qoray sheekh la dhihi jiray cabdulqaahir ibnu taahir albagdaadi sheekhaasi wuxuu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 429 ayuu sheekhaasi geeriyooday culimmadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu qarka u saarnaa inuu salaf noqdo ayuu qarka u saarnaa sheekhaasi kitaabkaasi wuxuu ka hadlaa firaqii islaamka soo maray iyo waxyaalahay caqiidaysnaayeen haddaba kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq cabdulqaahir albagdaadi wuxuu ku yidhi lambarka 65 zacama hishaamu bnu lxakam hishaam binu lxakam ninkii la dhihi jiray wuxuu sheegtay anna macbuudahu jismun duu xaddin wa nihaaya ilaaha uu caabudaayo inuu jismi leeyahay soohdinna uu leeyahay meel uu ku dhammaadana uu leeyahay wuxuuna dhihi jiray wa makaanuhu huwa alcarshu booska ilaahay uu deggan yahana waa carshiga ayuu dhihi jiray ninkaas raafidada ayuu ka mid ahaa haddaba walaalkayga muslimahow ogaaw haddii aad ilaahay tidhaahid makaan ayuu leeyahay meesha uu deggan yahay makaankiisuna waa carshiga aad tidhaahid inay kuu soo dhuumatay caqiidadii raafidada ee aadan shaqo ku lahayn caqiidadii salafu saalix iyo midii laga dhaxlay nabigeenna sala allahu wasalama calayhi iyadoo faahfaahsanna kitaabkan gudihiisa ay noogu iman doontaa walaa yajri calayhi ilaahay korkiisa kuma socdo zamaanun wax zamanah oo ilaahay ku socdaahi ma jiraan oo lama odhan karo ilaahay wuxuu jiraa 100 sano ilaahay wuxuu jiraa 1000 sano ilaahay wuxuu jiraa 1 bilyan oo sano lama odhan karo wax zamana oo ilaahay lagu tilmaami karaahi ma jiraan maxaa yeelay zamanka intaan la abuurin ayuu alla jiri jiray subxaanahu wa tacaala khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alcarsha carshiga ayuu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuuna carshiga ilaahay u abuuray idhaaran liajli idhaarin muujin awgeed liqudratihi awooddiisa uu muujinaayo ilaahay carshiga wuxuu u abuuray inuu awooddiisa ballaaran muujiyo maxaa yeelay carshigu waa makhluuq aad u weyn waa makhluuq aad u ballaaran weynintaa iyo ballaaridaasi waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigaas allihii abuuray inuu yahay alla awooddiisu aad ay u ballaaran tahay laa makaanan makaan uma abuurin carshigaasi boos inuu ahaado lidaatihi daatada ilaahay inuu boos u ahaado ilaahay carshiga uma abuurin oo uma uusan abuurin inuu ilaahay degganaado oo carshiga uu guri ka dhigto ama uu carshiga makaan iyo boos uu ka dhigto ilaahay uma uusan abuurin carshiga qad xaqiiqee kaana ilaahay waa ahaa jiray waana jiri jiray weligiis walxaal laa makaana boos uusan jirin isagoo carshi uusan jirin ama wax boos la yidhaah aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray taasina qof muslima oo inkiri kartaahi ma jirto inta boos uusan jirin ama carshi uusan jirin ayuu ilaahay jiri jiray subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahayna al'aana haddeer calaa maamaladii kii korkiisa ayuu ahaaday kaana ilaahay calayhi maagaa dushiisa uu ahaaday qabla khalqi almakaan makaanka abuuristiisa ka hor intuusan carshiga iyo makaanka abuurin ka hor siduu ahaa jiray ayuu haddana yahay caqiidada toosan ee salafuna saalix laga dhaxlay walaalayaal waa middaas hadhihin ilaahay carshiga ayuu joogaa dhulkuu joogaana hadhihin
daatadiisu meelahanay joogjoogtaana ha dhihin waxaad dhehaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshiga iyo adduunkan dhan intuusan abuurin suu ahay ayuu haddana yahay dheh ma isbeddelin wax isbeddelana alla kuma dhicin subxaanahu wa tacaala wa ashhadu waxaan qirsanahay an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allaahu ilaahay maahane waxdahu munfaridan keligii xaal uu yahay laa shariika wax shirka ilaahay la ah lahu lilaahi ilaahay uma sugnaanin wax shirka kula ah sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa wax alla shirka kula ah ma jiraan shahaadatan qiritaan ayaan qiri shahaadadaasoo takuunu ahaata dukhran kayd lana annaga kayd noo ahaata yowma maalin kayd noo ahaata tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood ay caddaan doonaan wa taswaddu wujuuhun wejiyaalka qaarkoodna ay madoobaan doonaan yowma tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood maalinta ay caddaan doonaan kayd noo ahaata wa taswaddu wujuuhun wejiyada qaarkoodna ay madoobaan doonaan waa maalinta qiyaamaha oo dadka mu'miniinta ah ee ahluljannaha ah wejigooda uu birbirqahayo uu hilhillaacahayo maalintaas shahaado kayd noo noqota ayaannu ilaahay u qiraynaa subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii eebbe iyo wasalaamu nabadgelyadii eebbe calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allah yeelo muxammedin ah khaatami ambiyaa'ihi ilaahay ambiyadiisa ambiyadaas nabigii lagu khatimay ah sala allahu wasalam calayhi khaatam haddaad akhriso bifatxi taa waa faacal bimacnaa mafcuul ah ambiyadiisa lagu khatimay waxaad kalood akhrin kartaa bikasri taa inaad ta'da hoos dhigtid oo tidhaahid khaatimi ambiyaa'ihi ambiyadiisa khatimay wey wa calaa aalihi ilaahay aalkiisa wa calaa aalihi nabiga aalkiisa aalkaa dushoodana allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo wa saxaabatihi wa calaa saxaabatihi nabiga asxaabtiisii asxaabtaa dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo asxaabtaasoo alkiraami ee wanwanaagsanaa ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu intaas ka bacdi bacda albasmala waalxamdalah waasalaati wassalaam bisinkii iyo xamdigii salligii iyo salaamtii intaas ka bacdi faclam ogaaw anna alcaqiidata caqiidadaasoo asaxiixata ee saxda ah hiya caqiidadaa saxda ah sabiilu lfalaaxi waa liibaanta waddadeedii wasacaadati liibaanta waddadeedii caqiidada saxda ah waa waddada aad u mari karto liibaantaada fi ddunyaa waalaakhira adduunya aakhira dhexdeedana la liibaano adduunyada markaad doonayso liibaan inaad ka hesho aakhirana aad doonayso inaad liibaanto walaalkayga toosanow caqiidadaada iska hagaaji oo sax walihaada likowni alcaqiidati alsaxiixati sabiila alfalaaxi waasacaada maadaama caqiidada saxda ah ay tahay waddada lagu liibaanaayo ayaa itajahad waxay u jihaysatay himamu dducaati ila allahi ilaa diin illaah diinta ilaahay kuwa dadka ugu yeedha himayaalkoodu waxay u jihaysatay qaatibatan dhammaantood xaal ay yihiin ilaa binaa'i alcaqiidati caqiidada dhismaheeda ayay u jeesatay fi nufuusi nafafyaalka dhexdoodana caqiidada lagu dhiso dadka ducaadda ah xilli kasta oo ay joogaan waxay awoodda saaraan caqiidada in la dhiso oo dadka dhexdooda ama nufuusta dhexdooda caqiidada saxdaa lagu dhiso li'annaha maxaa yeelay caqiidada saxda ah ahamu shayin waa shay midka ugu muhiimsan shaygaasoo yashtaqilu bihi shayga almu'minu mu'minku uu ku mashquulo mu'minkaasoo assaadiqu fii iimaanihi iimaankiisa ka run sheegaaya mu'minka iimaankiisa ka run sheegaaya waxa uu ku mashquulo waxa ugu muhiimsan caqiidada saxda ah welidaa caqiidadaa saxda ah walaalkaygiyow waa inaad aad u ilaashatid haddaba walaalayaal darsigeennii koowaad ee kitaabkii alhadyu alwaadix fi ddabbi can muctaqadi salafi saalix ayaa xilligan intaa inooga sinan wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد ولا ليال وحا أن جعلنا هل كان إنا نكسو قد بنه عقيدة السلف الصالح عقيدة السلف الصالح
ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga diin dhigan jireen caqiidada salafu saalix waxa aanu ku soo aroorinay kitaabkan magaciisa la yidhaaho alhadyu alwaadix fi adabbi can muctaqadi salafi asaalix kitaabkaas waxaanu ku soo aroorinay salafu saalix oo saddexdii qarni ahaa alquruunu almufadala saddexdii qarni oo ummadda dhan laga fadilay nabigeennuna uu u qiray sala allahu wasalama calayhi inay ahaayeen dad ahlulkhayr ah saddexdaa qarni caqiidadii ay aaminsanaayeen oo saafi ah ayaannu kitaabkan ku soo gudbin doonnaa in shaa allahu tacaala salafu saalix marka la leeyahay waa qarnigii boqolkii sano ee xilligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo boqolkii labaad ee ku xigay iyo boqolkii saddexaad saddexdaas qarni ayaa laysku yidhaahaa asalafu saalix haddaba saddexdaas qarni caqiidadii ay aaminsanaayeen oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka aaminsanaayeen ayaannu kitaabkan ku soo gudbin doonnaa alhadyu alwaadix fi dabbi can muctaqadi salafi saalix haddaba walaalayaal waxaan wax shakiyihi uusan ku jirin caqiidada islaamku in ay soo martay heerar kala duwan heerarkaas kala duwan inay mari doontana waxaa inoo caddeeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ayaa waxaa nabigeenna uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh layaأtiyanna calىa ummatii maa ataa calىa bani israa'iil tafaraqa banuu israa'iila calى اثنتين وسبعين milة وستفترق أمتي على 73 milة تزيد عليهم milة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا يا رسول الله وما الملة التي تتغلب قال ما أنا عليه وأصحابي حديث كاس إمام الترمذي أيا وريي أسانيد فربضا أيونا كسو أروري ووحا حديث كان نبيك كسو قادي كان وريي صلى الله وسلم عليه جماعة فربضا أي صحابة كمدا وحانا صحابة النبيك حديث كما غشي كمدا أنس بن مالك أبي هريرة أبو الدرداء جابر بن عبد الله أبي سعيد الخدر أبي بن كعب عبد الله بن عمرو بن العاص أبي أمامة واثلة بن الأسقع يرك فربضا صحابة النبي أن كمد صلى الله وسلم عليه يا حديث كان النبي كما غلي هذا بحديث كاسوال ليال وحا أوليه هي ومدى إذا وحا أو إيمان هيا وحي هير بنو إسرائيل ويمد أو خلافة أو كلا هير بنو إسرائيل وحا أي كوكالة تغين تضباطا إيا الله فرقو ومدى إذن وحي أكالة تغي دونتا تضباطا إيا صدح فرقو وحينا ديرات كلا نقن دونتا هير بنو إسرائيل هل فرقو تضباطا إيا صدح داس فرقو كل قود وأهل النار إلا هل فرقو أو كليا ما هني markii ay su'aaleen saxaabadu nabiga sallallahu sallam alayhi oo yiraahdeen rasuulka ilaahayow maxay tahay firqada gaalibka ah ama diinta saxda ah ku socota caqiidadeeduna ay tahay nadiifka wuxuu nabigu ku jawaabay sallallahu sallam alayhi ma ana alayhi wa asxaabi aniga iyo asxaabtaydu waxa aanu ku sugannahay oo xagga caqiidada iyo hadiga ah taas ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi ayaa badbaadaysa ahluljannana ah wixii kale oo ka soo haray waa ahlunaar haddaba walaalayaal si loo ogaado xaqaa'iqa millada ama firqada nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalam calayhi inay badbaadayso ayaa waxay tahay nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi wixii uu haystay saxaabadiisuna ay haysteen salafu saalixna ay aaminsanaayeen waxaana shaki ku jirin caqiidadu heerar kala duwan in ay soo martay muslimiintu xilligii nabigeenna sala allahu wasalam calayhi uu noolaa waxa ay ku socdeen hal waddo oo keli ah wax khilaafana uma dhexaynin xagga usuusha iyo xagga furuucda midnaba khilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa markii nabigeennu geeriyooday sala allahu wasalam calayhi maxaa yeelay qoom saxaabada ka mida ayaa waxay yidhaaheen ma uusan geeriyoon nabigu sala allahu wasalam calayhi mana dhiman laakiin samada ayaa loo kor yeelay
sida nebi ciiseba samada loogu kor yeelay khilaafkani waxaa baabi'iyey sayidunaa abubakar as-sidiiq markii uu aqriyey aayadda qur'aanka ah ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalama calayhi dadka kalena way dhimanahayaan waxaa kaloo uu aqriyey wamaa muxammedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebi moxamed sala allahu wasalama calayhi rasuul maahane wax kale ma aha isagana waxaa hortiisa geeriyootay rusul kale oo isaga ka horraysay hadduu geeriyoodo ama la dilo ma gaalnimadiinnii ayaa dib ugu laabanaysaan aayaddaas markuu aqriyey sayidunaa abubakar khilaafkaasi wuu baaba'ay muslimiintii dhammaantoodna waxay isla qireen nabigu inuu geeriyooday sala allahu wasalama calayhi khilaafkii labaad ee muslimiinta dhex dhaca ayaa wuxuu ahaa in ay isku khilaafeen meesha nabiga lagu aasaayo sala allahu wasalama calayhi saxaabada qaar ka mida ayaa waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa magaalada maka maadaama magaalada uu ku dhashay markii horena laga soo saaray magaaladaas qiblada uu u dukanayana ay ahayd dhinaca maka ubadkiisuna meesha uu ku dhalay uuna ku guursadana ay ahayd magaalada maka midda kale waxay yidhaaheen qoladaasi nabiga awowihii sala allahu wasalama calayhi oo ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ah ayaa maka ku aasan qolo saxaabada ka mida ayaa fikri kaa ka duwan soo jeediyeen waxayna yidhaaheen magaalada madiine ayaa lagu aasi maxaa yeelay waa magaaladii uu u soo haajiray waa magaaladii masjidka uu ka dhisay sala allahu wasalama calayhi qolo kalena waxay yidhaaheen nabiga waxaannu ku aasaynaa masjidka weyn ee la yidhaaho almasjid alaqsa waa masjidkan hadda yahuuddu gacanta ay ku hayso masjidkaas ayaannu ku aasaynaa ayay yidhaaheen maxaa yeelay halkaa waxaa ku xabaalan nabiga awowayaashiisii mid ka mida waa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam haddaba khilaafkani wuxuu baaba'ay markii sayidunaa abubakar uu saxaabada u sheegay xadiis arrinkaa ka hadlahaya inuu jiro xadiiskaas oo dhahaya ina alambiyaa'a yudfanuuna xaysu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa meesha naftu uga baxday sidaas ayaa marka khilaafkaasi u baaba'ay waxayna ku dhaqmeen xadiiskaas abubakar uu nabiga uga sheegay sala allahu wasalama calayhi oo tusaalaynahaya ambiyada in lagu aasahayo meesha naftu uga baxday sidaas ayaana nabiga lagu aasay magaalada madiina sala allahu wasalama calayhi kabacdi waxay muslimiintu isku khilaafeen ummadda ninkii hoggaamin lahaa maadaama nabigeennu uu geeriyooday sala allahu wasalama calayhi ansaartii waxay yidhaaheen waxaa ummadda hoggaaminahaya sacd ibnu cubaada alkhasraji reer qurayshna waxay yidhaaheen imaamada iyo madaxtinimada waxaa qaadahaya reer quraysh uun markaas kabacdi khilaafkaasi wuu baaba'ay waxayna muslimiintii isku waafaqeen inuu hoggaamiyo assayid abubakar as-sidiiq muslimiintii marka waxay sidaa ku socdeen zaman dheer iyagoo iswaafaqsan oo wax khilaafahuna dhexdiisu aysan aalin waxay la dagaalamayeen dadka murtadiinta ah oo diinta dib uga laabtay iyo gaalada ayay dagaal ku qaadahayeen kabacdi marka waxaa dhacay dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay madaxweynihii saddexaad asayid cuhmaan ibnu cafaan waxay isku khilaafeen kabacdi saxaabadu ruuxii ka dambeeyey sayid cuhmaan dilkiisa ee qorsheeyey fidno isdaba joog ah ayaa halkaa ka bilaabatay ilaa uu dhacay dagaalkii ay isaga hor yimaadeen sayidunaa caliy bni abi taalib iyo mucaawiyatu bni abi sufyaan laakiin saxaabadaa dagaalka dhex maray wuxuu ahaa dagaal aan la odhan karin waxay la mid yihiin dagaallada jaahiliyada ee xilligan waddamadeenna ka dhacaya balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ijtihaad ku socda mid walbana wuxuu u dagaalamayey diinta haddaad hoggaamin lahayd way kor noqon lahayd marka dagaalkaa saxaabada dhex dhacay in laga gaabsado waxna aan laga sheegin sidaas ayaa salafu saalix caqiidadooda ay ku tageen iyadoo marka saxaabadu ay sidaa arrinkoodu yahay waxaa soo baxay xilligii mubtadicada waxaa qoorta sare u qaaday qolo mubtadica ah oo ku sheegtay saxaabada raggoodii waaweynaa in ay gaalo yihiin mubtadicadaas oo ay ugu horreeyeen qoladii la odhan jiray khawaarijtaas oo ahaa dad aad u cibaado badan masaajidana camira laakiin ku gaalnimo xugminaya
saxaabada raggoodii waaweynaa ayaa soo baxay khawaarijtaas waxaa aad ula dagaalamay dabar gooyana sayidunaa caliy bni abi taalib rag fara badanna ka laayey gebagabadii ugu dambaysana iyaga ayaa toogtay sayidunaa caliy bni abi taalib sida taariikhda islaamku ay qortay kabacdi haddana waxaa soo baxay niman kale ee bidco ah ee la odhan jiray qadariya waxaana bidcadaas aasaasay nin la odhan jiray macbad aljuhani ayaa aasaasay ninkaas macbad aljuhani marka uu arrinkaa faafinayey muddo dheer wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa 80kii waxaa kaloo soo baxay nin la odhan jiray jacd bnu dirham nin la odhan jiray ayaa soo baxay isaguna oo muslimiintii khilaaf xagga caqiidada uga abuuray ninkaas oo watay qur'aanka ilaahay waa makhluuq ninkaas isagana waxaa dilay khaalid ibnu cabdillaahi alqasri nin la odhan jiray ayaa dilay haddaba saxaabadu waxay ku gacan sayreen kana beri noqdeen mubtadicadii qoorta soo qaaday waxaana ka mid ahaa dadkii ka beri noqday saxaabigii weynaa ee la odhan jiray cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar nin saxaabiya ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi inna qawman yaqra'uuna alqur'aana kharajuu min qibalina qolo qur'aanka akhrinaysa ayaa waxay ka soo baxeen buu yidhi dhinaceenna wa yaquuluuna ina alamra unuf waxayna leeyihiin arrinku waa cusub yahay oo wax qadar ilaahay iyo qorshe ilaahay uu wataahi ma jiraan wax hore loo qadaray ee ilaahay hore uu u qorsheeyey ma jiraan ayay leeyihiin oo qofka insaanka ah wixii dhibaato ah ku dhaca ama khayr ee ku dhaca hore uguma qorayn laakiin hadda uunbuu ilaahay bilaabi saas ayay qabeen qoladaas la odhan jiray qadariyada cabdullaahi ibnu cumar ayaa loo sheegay markaasuu ku yidhi akhbirhum annii barii'un minhum wa annahum buraa'aa'u minii waxaad u sheegtaa buu yidhi qolada sidaa qabta inaan anigu beri ka ahay iyaguna ay beri u yihiin haddaba asarkaas waxaa wariyey imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey mujalladka ugu horreeya ayuu imaamu muslim uu ku wariyey in cabdullaahi ibnu cumar uu ka beri noqday qoladaa mubtadicada ah ee la odhan jiray qadariyada haddaba marka waxaa taa iyagana ku xigay qoladii la odhan jiray muctasiladu waxay soo baxeen xilligii uu noolaa imaamkii weynaa alxasanu albisri waxayna muddo dheer ka akhrisan jireen casharrada diiniga ah kabacdi markii casharradii diiniga ay ka xambaareen sheekhoodii ayay khilaafeen waxaana ugu horreeyey nin sheekhiisa khilaafa ee abulxasan albasri imaam alxasan albasri khilaafa ninkii la odhan jiray waasil ibnu cataa ayaa ugu horreeyey muctasilada ninkii aasaasay ayuu ahaa waasil ibnu cataa wuxuu ku dhashay magaalada madiina sanadku markuu ahaa 80meeyadii wuxuuna geeriyooday 131 ayuu geeriyooday waa shaykhu almuctasila awalu man adhara madhab alictizaal ayuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee madhabka ictizaalka ama bidcada muctasilada aasaasay ayuu ninkaasi ahaa waxaad kala xidhiiri kartaa ninkaa taariikhdiisa oo dhammaystiran kitaabka la yidhaaho lisaanu ulmiisaan ayaad kala xidhiiri kartaa oo ibnu xajar alcasqalaani sheekhan bukhaariga qoray uu iska leeyahay juska 6 lambarka 214 ayuu uga hadlay waxaad kalood ninkaa taariikhdiisa kala socon kartaa kitaabka la yidhaha albad'u wataariikh juskiisa 5 lambarka 142 haddaba marka alxasan albisri wuu ka beri noqday wuxuuna yidhi orod oo iga tag maadaama aad muujisay muslimiinta khilaafkoodii haddaba sida mubtadicadaas iyo wixii dariiqooda raacayba muslimiintu ay ugu baraarugaan kana beri noqdaan ayaannu waxaannu jecelnahay muslimiinta inaannu u soo gudbinno caqaa'idkii salafu saalix waxaana ku soo aruurinay kitaabkan alhadyu alwaadix fi dabyi can muctaqadi salafi saalix oo uu qoray aniga oo ah sheekh abubakar xasan maalim kitaabkaas daabacaddiisii ugu horraysay waxaa la daabacay bishii 17 1425 haddaba marka waxaa noo bilaabanaya kitaabkaas oo aannu dadka muslimiinta ah ugu soo gudbinayno afka soomaaliga bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaawnaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista oo adduunka naxariistiisu ay ballaaran tahay oo muslimiintana adduunka ugu naxariista gaalada xataa ugu naxariista maxaa yeelay gaalku caafimaadka uu haysto iyo hantida uu haysto wuxuu ku haystaa raxmad eebbe ee hadduusan ilaahay u naxariisan lahayn daqiiqad ma noolaadeen
marka adduunkan naxariistiisa ilaahay waa ku ballaarantaho muslimiintana wuu u naxariistaa gaaladana wuu u naxariistaa allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista gaarkaa ilaahay wuxuu bixiyaa aakhire markii la tago raxmaddiisu waxay ku gaar tahay dadka muslimiinta ah oo qof gaala aakhiro ilaahay agtiisa uma yaallaan wax naxariisa alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allahaasoo alwaasici ee alwaasici alfadli fadligiisu ballaaraa waljuudi deeqsinimadiisuna ay ballaarayd waxaa mahad iska leh allaha fadligiisu ballaaran yahay deeqsinimadiisuna ay ballaaran tahay alladii allahaasoo khadacat lahu allahaas ay u hoggaansantay samaawaadku ay u hoggaansameen samaawaadkaasoo as-sabcu toddobada ah waalardu ardaduna ay u hoggaansantay waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaadka iyo ardada dhexdooda ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u hoggaansamay toddobada samo iyo toddobada ardo iyo waxa ku dhex jira oo dhan kulligood ilaahay maamulkiisa ayay ku jiraan qof ilaahay la maamushaana ma jiraan daqiiqaddii uu doono ayuu ilaahay dhammaantoodba halaagi karaa daqiiqadduu doono ayuu ilaahay u naxariisan karaa intuu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejin karaa awooddiisa ballaaran ilaahay ayay u hoggaansamaan intaasi wax ilaahay kula taliyaana ma jiraan tanazaha ilaahay wuxuu ka fogaaday can ilandaadi andaad ayuu ilaahay ka fogaaday andaadka ereyga andaad waa jamcu niddin ayaa waxaa lagu jamciyey andaad lagu jamciyey niddiga af carabiga waxaa lagu yidhaahaa annadiiru waalmathiil midka adiga kula midka ah ayaa waxaa la yidhaahaa niddi kaas ayaa marka waxaa lagu jamciyey andaad waxaana laga soo qaatay qowlka ilaahay uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay ha u yeelinina andaad waxyaalo ilaahay la mida marka ilaahay wuxuu ka fogaaday wax isaga la mida oo daatadiisa kula mida daatada ilaahay wax kula midihi ma jiraan sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay wax qaadan karaahina ma jiraan oo kula mida sidaasoo kale afcaasha wax kula midihi ma jiraan oo ficilka ilaahay uu sameeyo qof samayn karta ee makhluuqaadkiisa ka midihi ma jirto wal arkaani xubno qaali ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaaday arkaanku waa jamcu rukni ayaa la jamciyey oo arkaan lagu jamciyey ulajeeddada marka arkaanta laga leeyahay waxaa weeye waa xubno qaali ah oo haddii shakhsiga laga siibo isla markaaba uu baaba'aayo qofku uuna dhimanaayo xubno noocaas oo kale ah ilaahay ma laha oo la leeyahay haddii ilaahay xubnahaas uu waayo wuu baabi'i lahaa oo wuu dhiman isaga dhanba la leeyahay ma jirto tusaale ahaan annagu xubno noocaasa waannu leenahay sida madaxa oo kale haddii annaga madaxa nala ka gooyo oo kow nala ka siiyo wax nolol ah oo meeshaa yaallaahi ma jiraan sidaasoo kale haddii beerka iyo wadnaha nala ka saaro nololi ma jirto laakiin ilaahay arrimahaasi waa ka fogaaday oo lama odhan karo ilaahay wuxuu leeyahay xubno haddii laga saaro uu isaga dhani baaba'aayo wal aalaati aalaad ayuu ilaahay ka marnaaday qalabyaal ilaahay qalab uu ku qaraabto ama uu ku adeegto ama uu wax ku dilo ma lahan ilaahay subxaanahu wa tacaala yumiitu bilaa aala ilaahay hub la'aan ayuu wax dilaa iyo qalab la'aan qofka markuu doonaayo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu dilo uma baahna inuu hub u soo qaato laakiin adigu markaad doonayso qof inaad toogato ama aad disho waxaad u baahan tahay inaad hub u adeegsato maahana kuma dhimanaayo waryaa dhimo waryaa kuma dhimanaayo laakiin ilaahay markuu doonaayo inuu qof dilo waxa ku filan kaliya inuu yidhaah kun ahaw qof meyda saas ayuu qofku balaq isaga leeyahay oo naftii ay ka bixi marka ilaahay aalo iyo qalab ma laha uu wax ku dilo laa yaxwiihi ilaahay ma koobo makaan ilaahay ma koobo oo ilaahay lama odhan karo subxaanahu wa tacaala meel ayuu deggan yahay iyo carshiga korkiisa ayuu joogaa ama dhulka ayuu joogaa lama odhan karo taasina waxa weeye waa caqiidadii ay ku lumeen qoladii la odhan jiray mushabbihada iyo raafidada ayaa caqiidadaas qabeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makaan u nisbeeyeen laakiin salafu saalix wax yidhi ilaahay makaan iyo boos ayuu leeyahay ma jiraan qur'aankuna ma sheegin nabigeennuna ma uusan sheegin sala allahu wasalama calayhi kitaabkii iyo sunnada laguma hayo wax ilaahay u qiray makaan iyo jiho waxaa sidaas oo kale aan la heli karin qof ka mida salafu saalix
oo sanad saxiixa looga hayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugay makaan iyo jiha uu u sugay haddaba marka waxaa loo baahan yahay markaad doonayso caqiidadii asalafu saalix in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka nasahdo ama aad ka fogeydo wax la yidhaaho makaan maxaa yeelay makaan inuu ilaahay leeyahay oo carshiga uu joogo waa caqiidadii laga dhaxlay raafidada tusaale ahaan kitaabkan la yidhaaho alfarqu bayna alfiraq lambarkiisa 65 waxa uu ku qoray in caqiidadii raafidada ay oran jireen ilaahay makaan ayuu leeyahay wuxuuna degan yahay carshiga marka kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq waa kitaab muhima waxa qoray sheekh la dhihi jiray cabdulqaahir ibnu taahir albagdaadi sheekhaasi wuxuu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 429kii ayuu sheekhaasi geeriyooday culimmadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu qarka u saarnaa inuu salaf noqdo ayuu qarka u saarnaa sheekhaasi kitaabkaasi wuxuu ka hadlaa firaqii islaamka soo maray iyo waxyaalahay caqiidaysnaayeen haddaba kitaabkaas alfarqu bayna alfiraq cabdulqaahir albagdaadi wuxuu ku yidhi lambarka 65 zacama hishaam bnulxakam hishaam binulxakam ninkii la dhihi jiray wuxuu sheegtay anna macbuudahu jismun duu xaddin wa nihaaya ilaaha uu caabudaayo inuu jismi leeyahay soohdinna uu leeyahay meel uu ku dhammaadana uu leeyahay wuxuuna dhihi jiray wa makaanuhu huwa alcarshu booska ilaahay uu degan yahana waa carshiga ayuu dhihi jiray ninkaas raafidada ayuu ka mid ahaa haddaba walaalkayga muslimahow ogaaw haddii aad ilaahay tidhaahid makaan ayuu leeyahay meesha uu degan yahay makaankiisuna waa carshiga aad tidhaahid inay kuu soo dhuumatay caqiidadii raafidada ee aadan shaqo ku lahayn caqiidadii salafu saalix iyo midii laga dhaxlay nabigeenna sala allahu wasalama calayhi iyadoo faahfaahsanna kitaabkan gudihiisa ay noogu iman doontaa walaa yajri calayhi ilaahay korkiisa kuma socdo zamaanun wax zamanah oo ilaahay ku socdaahi ma jiraan oo lama odhan karo ilaahay wuxuu jiraa 100 sano ilaahay wuxuu jiraa 1000 sano ilaahay wuxuu jiraa 1 bilyan oo sano lama odhan karo wax zamana oo ilaahay lagu tilmaami karaahi ma jiraan maxaa yeelay zamanka intaan la abuurin ayuu alla jiri jiray subxaanahu wa tacaala khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alcarsha carshiga ayuu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuuna carshiga ilaahay u abuuray idhaaran liajli idhaarin muujin awgeed liqudratihi awooddiisa uu muujinaayo ilaahay carshiga wuxuu u abuuray inuu awooddiisa ballaaran muujiyo maxaa yeelay carshigu waa makhluuq aad u weyn waa makhluuq aad u ballaaran weynintaa iyo ballaaridaasi waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigaas allihii abuuray inuu yahay alla awooddiisu aad ay u ballaaran tahay laa makaanan makaan uma abuurin carshigaasi boos inuu ahaado lidaatihi daatada ilaahay inuu boos u ahaado ilaahay carshiga uma abuurin oo uma uusan abuurin inuu ilaahay deganaado oo carshiga uu guri ka dhigto ama uu carshiga makaan iyo boos uu ka dhigto ilaahay uma uusan abuurin carshiga qad xaqiiqe kaana ilaahay waa ahaa jiray waana jiri jiray weligiis walxaal laa makaana boos uusan jirin isagoo carshi uusan jirin ama wax boos la yidhaah aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray taasina qof muslima oo inkiri kartaahi ma jirto inta boos uusan jirin ama carshi uusan jirin ayuu ilaahay jiri jiray subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahayna al'aana haddeer calaa maa maladii kii korkiisa ayuu ahaaday kaana ilaahay calayhi maagaa dushiisa uu ahaaday qabla khalqi almakaan makaanka abuuristiisa ka hor intuusan carshiga iyo makaanka abuurin ka hor siduu ahaa jiray ayuu haddana yahay caqiidada toosan ee salafuna saalix laga dhaxlay walaalayaal waa middaas hadhihin ilaahay carshiga ayuu joogaa dhulkuu joogaana hadhihin daatadiisu meelahanay joogjoogtaana hadhihin waxaad dhehaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshiga iyo adduunkan dhan intuusan abuurin suu ahay ayuu haddana yahay dheh ma isbeddelin wax isbeddelana alla kuma dhicin subxaanahu wa tacaala wa ashhadu waxaan qirsanahay an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allaahu ilaahay maahane waxdahu munfaridan keligii xaal uu yahay laa shariika wax shirka ilaahay la ah lahu lilaahi ilaahay uma sugnaanin wax shirka kula ah sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa wax alla shirka kula ah ma jiraan shahaadatan qiritaan ayaan qiri shahaadadaasoo takuunu ahaata dukhran kayd
lana annaga kayd noo ahaata yowma maalin kayd noo ahaata tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood ay caddaan doonaan wa taswaddu wujuuhun wejiyaalka qaarkoodna ay madoobaan doonaan yowma tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood maalinta ay caddaan doonaan kayd noo ahaata wa taswaddu wujuuhun wejiyada qaarkoodna ay madoobaan doonaan waa maalinta qiyaamaha oo dadka mu'miniinta ah ee ahluljannaha ah wejigooda uu birbirqahayo uu hilhillaacahayo maalintaas shahaado kayd noo noqota ayaannu ilaahay u qiraynaa subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii eebbe iyo wasalaamu nabadgelyadii eebbe calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allah yeelo muxammedin ah khaatami ambiyaa'ihi ilaahay ambiyadiisa ambiyadaas nabigii lagu khatimay ah sala allahu wasalam calayhi khaatam haddaad akhriso bifatxi taa waa faacal bimacnaa mafcuul ah ambiyadiisa lagu khatimay waxaad kalood akhrin kartaa bikasri taa inaad ta'da hoos dhigtid oo tidhaahid khaatimi ambiyaa'ihi ambiyadiisa khatimay wey wa calaa aalihi ilaahay aalkiisa wa calaa aalihi nabiga aalkiisa aalkaa dushoodana allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo wa saxaabatihi wa calaa saxaabatihi nabiga asxaabtiisii asxaabtaa dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo asxaabtaasoo alkiraami ee wan wanaagsanaa ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu intaas ka bacdi bacda albasmala waalxamdalah waasalaati wassalaam bisinkii iyo xamdigii salligii iyo salaamtii intaas ka bacdi faclam ogaaw anna alcaqiidata caqiidadaasoo asaxiixata ee saxda ah hiya caqiidadaa saxda ah sabiilu lfalaaxi waa liibaanta waddadeedii wasacaadati liibaanta waddadeedii caqiidada saxda ah waa waddada aad u mari karto liibaantaada fi ddunyaa waalaakhira adduunya aakhira dhexdeedana la liibaano adduunyada markaad doonayso liibaan inaad ka hesho aakhirana aad doonayso inaad liibaanto walaalkayga toosanow caqiidadaada iska hagaaji oo sax walihaada likowni alcaqiidati alsaxiixati sabiila alfalaaxi waasacaada maadaama caqiidada saxda ah ay tahay waddada lagu liibaanaayo ayaa itajahad waxay u jihaysatay himamu ducaati ila allahi ilaa diin illaah diinta ilaahay kuwa dadka ugu yeedha himayaalkoodu waxay u jihaysatay qaatibatan dhammaantood xaal ay yihiin ilaa binaa'i alcaqiidati caqiidada dhismaheeda ayay u jeesatay fi nufuusi nafafyaalka dhexdoodana caqiidada lagu dhiso dadka ducaadda ah xilli kasta oo ay joogaan waxay awoodda saaraan caqiidada in la dhiso oo dadka dhexdooda ama nufuusta dhexdooda caqiidada saxdaa lagu dhiso li'annaha maxaa yeelay caqiidada saxda ah ahamu shayin waa shay midka ugu muhiimsan shaygaasoo yashtaqilu bihi shayga almu'minu mu'minku uu ku mashquulo mu'minkaasoo assaadiqu fii iimaanihi iimaankiisa ka run sheegaaya mu'minka iimaankiisa ka run sheegaaya waxa uu ku mashquulo waxa ugu muhiimsan caqiidada saxda ah welidaa caqiidadaa saxda ah walaalkaygiyow waa inaad aad u ilaashatid haddaba walaalayaal darsigeennii koowaad ee kitaabkii alhadyu alwaadix fi dabbi can muctaqadi salafi saalix ayaa xilligan intaa inooga sinan wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh